بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال iyo marweyn daqiiqadaha kooban aan hawada ku wada jirno waxaanu leenahay anaga ilaahay baan nalay xaqiisana u noqon doonaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un qaraxii maanta isha ayaan ku haynay in badan laakiin markii ugu dambeysay maadaama da wax qarsooma meesha aan jirin waxaan ku qasbanaanay inaan fiirino qaraxaasi macnii danta laga lahaa waxa loola jeeday ayaanu eegaynaa hadii Allah awood leh uu ka raali noqdo falanqayn ayaan ku sameyn doonaa qadadka wana waa furaynaa qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan ex control afgooye gobolka Shabeellaha Hoose ee Jamhuuriyadda Barakeysan ee Maryland maanta lagu hoobtay oo lagu baaba'ay su'aalo badan ayaa ka taagtaagan qaraxaasi inuu ka dambeeyay yaa ka dambeeyay yaa fuliyay danta laga lahaa waa maxay su'aalahaas oo dhan marka aad soo khulaasaysid SMC iyo jugta culus maanta oo dhan waxay baaritaan ugu jireen qaraxaasi danta laga lahaa ilaa iyo sirdoonka ilaa iyo xarunta madaxtooyada ilaa iyo ma arkayse kuwa qaraxyada lagu tuumo dhammaan macnii baaritaano ayaan ku dhaqaaqaynay saacadihii ka soo wareegatay qaraxaasi u dhacay laakiin xaqiiqada qaraxaasi waxa weeye qaraxaasi gaari dayna ah ayaa lagu diyaariyay gaarigaas isaga ah aagan gobolka Shabeellaha Hoose dhanka ceelasha iyo ayaa ma arkaysa lagu soo habeeyay waxaana loogu talagalay meel kale looma wadin xarun dawladeed oo kale looma wadin madaxtooyo loomana wadin ma arkaysa kuliyad jaalisiyaad iyo wasaarad gaashaandhig toona looma wadin qaraxaasi waxaa loogu talagalay barta maanta uu ku qarxay in lagu qarxiyaa loogu talagalay maxay tahay ujeedada meesha loogu qarxinayo danta laga leeyahay maxay tahay su'aashaasi ayaad is warsanaysaa marka danta laga lahaa qaraxaasi in ex control afgooye lagu qarxiyo waxay ahayd waxbaan ku barayaa kolley dadka Muqdisho joogana waxa weeye haddaan been sheegayno way nala garaabayaan haddaan run sheegaynana waxa weeye macnii haddaan been sheegayno way na qabanayaan haddaan run sheegaynana way nooga garaabayaan marka dadka dibadda joogana waan baraynaa qaraxaas danta laga leeyahay dibaan u celin ex control afgooye waxaan dhihi karaa dawladdan muruga iyo macluul 8 February Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaaminayo intii ay timaaday baabuur ka gudbaya magaalada Muqdisho ee aadaya ceelasha biyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee Jamhuuriyadda Barakeysan ee Maryland ma jirin sidoo kalena gaari ceelasha ka soo baxaya oo Muqdisho si toos ah u soo galaya ma jirin waxa jirtay wax la yiraahdo kala wareeg ilaa imaanta aan joogno waa kala wareeg sirdoonka ay soo wacay raali ahaada salaamu alaykum macni maxaa ku soo kordhay dhaynadii qaraxday diyaarinteeda يا عيالش ده عيالش بين بيكو شيغاين ميا انو كيماد غاري اوكي دنكاسay ka soo abeeyeen ma qof asaarna mise labo dhanka xoosho ka soo gala aadiya okay waa mahadsantahay sirdoon insha Allah ta'ala waa saxayna qodobkaas mahadsanid ay raali ahaada macniga anagu nafsadeena sirdoonnadeena wada shaqayntooda haddii ma arkaysa wax qalad wayna saxan dad qalad qaatana waanahay gaariga ma arkaysa dhanka xoosho ka soo galay baa leeyay waxaana ma arkaysa uu ka yimaaday dhanka Muqdisho ceelasha biyaha xaqiisi
macnihii uu ku aadanaa oo ex control afgooye dhankaasoo ka soo galay. walaalayaal marka waxaan u noqonaynaa qaraxa iyo ceelasha biyaha iyo waxaan u noqonaynaa muqdisho iyo ex control afgooye iyo wadooyin kale aan u noqonaynaa. marka aad joogtid ceelasha ex control afgooye baabuurta ka soo baxaysa ceelasha biyaha carbiska afgooye buur baydhabo yarey buur hakaba yarey iyo galmudug yarey halka loo yaqaano baabuurta ka soo baxaya ex control afgooye markay soo gaaraan kama soo gudbaan inta muruge iyo macluul dowladdan 8 February ay joogto xamar toos uma galaan. sidoo kale baabuurta xamar ka imaanaysa iyaguna ee ku sii jeeda ceelasha biyaha iyo galmudug yarey iyo buur hakaba yarey iyo carbiska macnii ku sii socota si toos uma gudbaan. meesha ex controlku waa kala wareeg, hadday been tahayna waa beenna dhaha, waa macnii kala wareeg weeye. sidoo kale waxaa jirta marka aad dharkanley iyo dhulkaasi aad macnii ka timaadid baabuurta waxay ku kala wareegaan meesha la yidhahdo korontada. kala wareegan kaliya maar ex control waxay ku kala wareegaan korontada oo danwadaag loo yaqaano. baabuurta ka imaanaysa muqdishada kale ee u soo socota dharkanley iyo dhulkan iyaguna macnii korontaday istaagayaan. baabuurta say u soo socdaan muqdishada kale ilaa iyo bakaaraha meel walba ka yimaada korontada markay yimaadaan dadkoo dhan way ka daadanayaan. kuwaan dhankaana dadkoo dhan way ka daadanayaan, korontaday isku gudbayaan. marka 1,000 qofood ayaa dhankan ka soo gudbaysa baabuurta ka degaysa, kunna dhankaanay ka soo degaysaa, sidaasay isu dhaafayaan. meeshaas iyada ah shacabka haddii hal bam la dhex dhigo waa laga faa'iidaystay. sidoo kale ceelasha biyaha iyo dadka muqdisho ka imaanayana ex control afgooye marka ma arkaysa macnihii baabuurta ay isu yimaadaan isuma gudbaan oo 2,000 hadday muqdisho ka timaado 2,000 ceelasha biyaha ay ka timaado waxaa weeye baabuurtu way kala wareeganayaan, dadka way ka degayaan baabuurta. meeshaasna vacuum ayaa ka furan. sida hadday tahay maanta ceelasha biyaha dadka ku nool iyo aagaasi iyo dadka xamar gudaheeda ku nool waxaa tiro badan dadka ku nool macnihii aagaan ceelasha biyaha dadka ku nool inta u dhaxaysa afgooye ilaa iyo ex control siinka dheer inta ku nool weedow iyo ayaa ka badan muqdishada caadiga ah. mar hadday sidaa tahay marka qaraxan waxaa lala eegtay barta ex control afgooye iyadoo sida macnihii sirdoonka southern media uu xaqiijiyey uu naga saxay uu ka yimaaday dhanka muqdisho weliba wadada xoosh uu ka soo galay gaarigan. gaari dhayna ah normal ahaan macnihii dhanka afgooye kamaba soo galaba, ma isku diidanna. dhanka afgooye iyo dhanka ceelasha biyaha dadka xamar jooga way garanayaan, askarta way og yihiin, dowladda way og tahay, shabaab way og tahay. dadka macnihii baabuurta nuuca dhoyanada ah xani afgooye waxaa ka soo gala mootooyin iyo dhankaasi waxaa ka soo gala caasiyo iyo baabuur kalaa ka soo gasha, laakiin dhayna macni waaba maba jirtaba meeshaas. sidoo kale marka dhayanadan oo hadda qaraxa macnihii lagu fuliyey muqdishadan ballaaran ayay ka soo gashay, xooshay ka soo gashay, dadkii oo kumanaan ah meesha dhooban ayaana qaraxa lagu fuliyey. qaraxa marka yaa ka dambeeyey? qaraxan waxaa ka dambeeyey maxamed cabdilaahi farmaajo iyo tiimkiisii muruge iyo macluul ama nabar iyo naxdin sida aa u taqaanaan waa lagu dambaabayaa. nabad iyo nolol haddaad tiraahdaane iyagaa ka dambeeyey. maxay uga dambeeyeen? danta laga lahaa waa maxay inaad ogaatid baad u baahan tahay. annagoo weliba jugta culus iyo SMC haddaan nahay baaritaan dheeri aan kusii maqanna caddayna waan idin siinaynaa kale oo gaaban. in ay ka dambeeyeen waxaa loogu talagalay qaraxan. maantay waxaa loo fariisanayay baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ayaa maanta fadhi lahaa, aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa fariisanayay. waa la ballansanaa. waayaan oo dhan waxaa jiray doodo ayaa jirtay. doodahaasi waxay ku qotomeen doorashada Soomaaliya ayay ku qotomeen. qaabka loo galaayo
nuuca ay noqonayso ayaa macnihi laga doodaya maxamed cabdilaahi farmaajo ajando wuxuu la yimaaday one man one vote nin iyo codkii ama qof iyo codkii ayuu doonayaa oo aan soomaaliya suuragal ka ahayn in uu dhigo si uu u guulaysto liannahu haddii si kale ay noqoto doorashada inuusan jaanis helaynin ayuu garanayaa maadaama ay sidaasi tahay marka walaalayaal si baarlamaanka maanta waxaa loo fariisan lahaa marka baarlamaanka soomaaliya wuxuu u fariisanayay maantay in doodii beryahan oo dhan la soo haayay macnihii cod la geliyo oo la yiraahdo ma arkaysee doorashada one man one vote waan ogolnahay iyo ma ogolin doorashada noocaasaan rabnaa in la galo siyaasadda sidaasay ahayd baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose saasay u ballansanaayeen qaraxan marka waxaa loogu talagalay farmaajo ugu talagalay iyo tiimkiisu kuwa doonaya in one man one vote macnihii lagu baajiyo macnihii waayo baarlamaanka inuu ka hor imaanayaa la ogaa beryahan oo dhan inta dooda qaadanaysa waxay lahaayeen xildhibaanadu suuragal ma ahan sida professor jawaari iyo dadkii dastuurkan wax ka qoray xildhibaanada macnihii majoritygooda waxay yiraahdeen war iyadoon la istirinin iyadoon macnihii la istirakoobin doorasho lama geli karay lahaayeen waad ogtihiin marka one man one vote inaan loo codaynaynin laga hor imaanayo maxamed cabdilaahi farmaajo iyo tiimkiisii weliba qabiil ahaanta u abaabulan dadkan in la laayo macnihii dhiigoodii laga ganacsado usoo shaqo tegay waxay doonayeen baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose in la baajiyo kulankooda qaraxa saasuu ahaa soomaalidayaan la sirin xarakatul al-shabaab baa ka dambaysay iyadaa sheegatay waxaas yaan lagugu sheekayn shabaabka laguu sheegayo shaqaale ay u shaqeeyaan waayo farmaajo iyo tiimkooda shaqaale u shaqeeyaan waayo farmaajo iyo tiimkooda shabaab macnihii lugtii banjarta haddii sheegta iyagaa sheegta hadda ka horna waan idiin sheegnay macnihii wargeysyada caalamkana way qoreen livekanaan idinka akrinay warbaahinta southern media cooperation iyo tiimka jugta culus iyadoo macnihii af ingiriisi ku qoran oo af soomaali ay ku fasiraysa idiin sheeg in macnihii warbixintii dheerayd new york markuu ka degayay farmaajo macnihii la hordhigi rabay oo la yidhi farmaajo taleefanada ka soo dhacaya koolkan sabtiga ka soo dhacaya qatar ee macnihii soomaaliya kusoo dhacaya qaraxyada lagu fuliyo maxaa ka ogtiin waa tii la lahaa war iyo dhammaantii marka baarlamaankii maantay mana baaqanin baarlamaankii waa uu kulmay khudbadihiisina hadda shanta soomaaliya kow ayaad ka baari kartaan iyagoo life ah oo hadlaaya waxay ka doodayeen arka baarlamaanka federaalka soomaaliya ma aysan baaqan laakiin danta laga lahaa waxay ahayd in baarlamaanka soomaaliya la baajiyo kulankoodii la baajiyo oo macnihii farmaajo uu yiraahdo macnihii dalka waxa uu galay xaalad kale waa in la sameeyaa waxa loo yaqaano martial law waa in la sameeyaa inuu yiraahdo qorshe noocaasi extension uu ku samaysan karo oo macnihii one man one vote maadaama laga hor imaanayo uu diido siyaasadiisi intaasay ahayd xasan cali khayre maanta u fiirso xasan cali khayre hadal kooban uu jeediyey maanta fiiriya soomaaliyey body languageka xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha fulinta fiiriya xasan cali khayre wuxuu leeyahay isagoo macnihii murugo jilaaya wuxuu leeyahay macnihii soomaalida dalka iyo dibaddaba xaaladan oo kale la isaga gurmado waa war wanaagsan laakiin body languagekaasi la xansaar soomaaligow annaga gurmadaan samaynay guddiyaan dhisnay bal dal iyo dibadna ha la isu gurmado siyaasi weeye luuqadaasi isku soo wada duub extension ku darsasho ayaa lagu raadinayaa qaraxan midda kale qaraxa farmaajo fulintiisii marka laga yimaado waxaa fududeeyey dowladdiisana fududaysay sababtay ku fududaysay war fiiri korontada madiine markaa aad joogtid danwadaag meesha loo yaqaano muqdisho oo intaas malyan ku nool ya waddadaa dheer wixii ka soo baxa dherkanley baabuur si toosa uma imaan karo dadkii macnihii dhuun baa la geliyay ama tunnel wax loo yaqaano tunnel waa taqaanaa
baabuurta Yurub iyo America marka la marayo ama Carabaha waxaad arkaysaa tunnel meel ay maraan oo macni aysan ka bixi karin hadduu qarax dhaco ama macni olol macni dadkii waa la soo safay dharkanley iyo dhulkaasi wixii ka yimaada oo wadada maraya korontada istaagayaan dawladda samaysay waxaas jidadka iyada ka goosgoosatay u fiirso gaariga marka macni kun qofood hadday rabaan Muqdisho inay galaan korontada waa inay istaagaan caruur leh waayeel leh saqiir iyo kabiir leh oo macni dhalooy iyo dhalay leh ilmaha dhabta ku sida badeeco wadata nooc walba isugu jirta waa in ay korontada istaagtaa ummadda ay istaagaan baabuurta ay ka wada degaan oo sidii mooro ari oo kale ama ayax oo kale iyagoo qulqulayo waa inay dhinac kale u gooshaan lugtooda qaybta kale ee Muqdisho ka imaanaysa oo iyaguna sida kabajaan oo kale ah waa inay iyaguna dhinacaan u soo tallaabaan iyagoo lugaynaya markaas kadib baabuurta ay kala wareejistaan kuwaan baabuurta ay ka dageen kuwii xagga ka yimaadeen waa inay fuulaan baabuurtii xagga ka timaadayna kuwii inta ka dagay waa in iyagoo lugaynaya ay ku bedelaan kala wareeg bay u sameeyeen dadka yaa laayay marka dadka yaa laayay waa pointiga labaad okay ceelasha biyaha ku soo hartay shacabka ka soo baxa wadada dheer ee afgooy ee ceelasha biyaha Carbiska la foole buura kabayaray baydhaba yaray galmudug yaray weedow ummadan macni geynkeedu intaas leeyahay hadday soo dhaqaaqaan oo ay soo baxaan ex control afgooy markay yimaadaan iyaguna waa inay baabuurta ka daataan ilaa baabuurka ma gudbaayo baabuurta markay ay ka daataan kuwii ka yimaadeen Muqdishada kale oo iyaguna kumanaan ah xamar 16 degmo wixii ka yimaada ee doonaya in ay u gudbaan dhanka ay ceelasha iyo weedow iyo burakabayare iyo baydhabayare iyo ma arkayse dhulkan kale ilaa afgooy iyaguna waa in ay istaagaan ex control afgooy markay istaagaanna gawaadhida ay ka daataan marka ay ka daataan iyagoo shinni ama ayax ama kabajaan oo kala ah waa in ay u soo lugeeyaan gadiga kale ee ma arkayse ex control afgooy dhanka ma arkayse ceelasha baabuurtii ay ka dageen kuwii ka yimaadeen ceelasha biyaha shacabkii ka dagay waa in ay fuulaan kuwii ceelasha ka yimaadayna baabuurtii xamar ka timaaday waa in ay fuulaan marka waa meeshaba waxay noqotay macnaheedu xeradii xoolaha lagu kala iibsanayay oo geela iyo lo'da iyo ariga inta la ballamo sabti ama axad oo kale la isugu yimaado oo la kala macnaheedu dureersanayay oo kale meeshii noqotay mooro xoolay noqotay mar hadday sidaas tahay marka haddii dadku sidaa kumanaan mar walba meesha ay u dhooban yihiin qaraxyo markay dhacaan yaa ka mas'uul ah lambar 2 qaraxyadaas yaa fududeeyay waay marka macnaheedu xaqa in laga leexdo looma baahna been in la isu sheego looma baahna yaa fududeeyay qaraxa ummadaas yaa fududeeyay markaas waxa fududeeyay macnaheedu nimanka dawladda isku sheegay farmaajaha dawladda sheegtay oo jidadka googoostay wasiirka amniga ninka la leeyahay oo ka shaqaysanaya dhagaxaanta askariga dhagaxaanta askarta lagu sheegay oo macnaheedu dhagaxii $500 mushaar la siiyo oo qofkii samaystay lagu siiyo aan garanayno oo jidadka googooyay iyaga umada laayay iyaga umada fududeynaya tan labaad yaa fududeeyay hadaa rabtidna iyaga fududeeyay yaa qarax dhigay hadaa rabtid farmaajo dhigay muxuu u dhigay baarlamaanka maanta in uu benado aysan shirin buu doonay baarlamaanka Soomaaliya oo maanta macnaheedu ka wuxuu doodaba macnaheedu u codayn lahaa one man one vote waan rabnaa iyo ma rabno iyo farmaajo doonaya one man one vote in lagu galo Soomaaliya doorasho been ah kaamlayaasha inta la soo ururiyo 3 milyan iyo 500 nooc codaysay ay dhahaan iyo baarlamaankii oo diidan aqlabiyadiisii iyagoo taagan war Soomaaliya iyadoo la is xisaabin doorasho lama gali karo uu ogaaday in macnaheedu aan la ogolaanaynin baarlamaanka one man one vote inaan la ogolaanaynin markuu ogaaday aqalka sare iyo aqalka hoose kulankooda inuu baajiyo ugu talagalay in uu ugu talagalay uu adeegsaday wuxuu adeegsaday ninka la yiraahdo taliyaha balayska federaalka Soomaaliyeed oo isku beel ay yihiin ayuu adeegsaday ninka la yiraahdo General Hajar
oo waagii horena ma arkaysee ahaa taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga militariga federaalka soomaaliyeed ahaa ayuu macnihi adeegsaday annagaa idiin sheegayna haddii kor iyo hoos loo soo baaro qaraxaasi SMC maanta waxaad ka qortaan iyo jugta culus qaraxaasi haddii kor iyo hoos adduunyada loo soo baaro farmaajo iyo macnihii xajaar kama baxayo taliyaha bilayska oo ayaan dhaweydna lagu waraystay halka loo yaqaano villa baarlamaanka Soomaaliya la yiri isla weyni baad leedahay macnihii dadka waad yastaa macnihii madaxdaad bahdishaa la yiri macnihii aad ogeydeen nin aan ahayn qaraxaasi meel kasta si kasta shabaab hadday rabaan filimaana soo duubaan annagaa ka dambayna ha dhaano annagaa yeelnay ha dhaano annagaa fulinay ha dhaano farmaajo iyo taliyaha bilayska la raadiyo Soomaaliya may maqlaysaan mana maqlaysaan hadana SMC iyo jugta culus farmaajo iyo general Hajar qaraxaasi laga baadi goobo annagu intaas ku sii dari mayno waana ogaan doontaan waxba macni dhulka yaa la isla dhicin waxba meelaha ku ruruganina qaraxan Hajar iyo Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaga 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ka inta soo raacdana macni waa kuwa calooshood u shaqaystayaal ah koonfurta Soomaaliya waan u dhalanay laakiin wax ay u turaayaan wax ay u abayeelayaan aan jirin weey xaqiiqdana waa sidaasi taliyaha bilayska Soomaaliyeed oo macni la yiri oo farmaajo uu u sheegay fiiri afarta taliye ugu sarreeyay yaa magacaaba ma wasiir gaashandhig baa magacaaba maya Soomaalida inay barataan loo baahan yahay jagooyinka fiiri dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha wuxuu magacaabaa wasiirada laakiin taliyaasha ciidamada taliyaha ugu sarreeya dalka ciidanka waa madaxweynaha taliyaha guud ee ciidanka dalka waa madaxweynaha Soomaaliya waa nuucu doonaa aado hadda farmaajo waa laakiin madaxweynaha dalka markaas jooga ayaa taliyaha guud ee ciidamada amarka ugu dambeeya isaga dhiibaya wasaaradda gaashandhiga waxay magacawdaa ma arkaysaa macnihi jagooyin kale laakiin jagada ugu sarreysa afarta taliye ee ugu sarreysa dalka waxa magacaabaya madaxweynaha ayaa magacaabaya wasiirka gaashandhiga waa lagala tashanaya kaliya madaxweynaha wuxuu u yeerayaa wasiirka gaashandhiga wuxuu leeyahay kaalay aniga taliyahaasan u magacaabaya asluubta ama militariga ama bilayska ama sirdoonka sida haday tahay afar taliyaha Soomaaliya ka dhisan ko taliyaha ciidamada xoogga ayaa ka dhisan cid kale ma magacaabayso farmaajo magacaabaya madaxweynaha taliyaha asluubta waxa magacaabaya madaxweynaha dekreeto madaxweynuhu ku iimaanaya taliyaha ma arkaysa macnihi bilayska waxa magacaabaya madaxweynaha dekreeto madaxweynaha lagu magacaabaya taliyaha ma arkaysa sirdoonka waxa magacaabaya dekreeto madaxweynaha lagu magacaabaya afartaasi taliye waxa magacaaba madaxweynaha madaxweyne farmaajo magacaabay ninka la general Hajar okay muuqaal yarna waan arkaynaa baraha bulshadana waa ku arkaysaan waxaan eegnaa muuqaalkan wax yaraan fiirin doonaa qaraxa markuu dhacay qaraxan 94 ku dhimatay yaa lagugu aqrin war dadka yagu way go'een may iyo maxaa way go'een dadka koonfureed way go'een qaraxa way ku go'een Maxamed Cabdullaahi farmaajo hadda markii ma arkaysay macni loo tagay oo leeyahay war waa ceebe hadal ayuu xoogo yar u macni erayo kooban u yiri laakiin xaqiiqada waxa weeye baarlamaanka inuu ku baajiyo doonayay maanta oo one man one vote loo fariisanayo Hajar ayaana ka dambeeyay taliyaha bilayska Soomaaliyeed ayaa ka dambeeyay qaraxa markuu dhacay oo ma arkaysa uuradu duushay shacabka uu baabacay oo eber uu noqday waxa soo istaagay gobolka Banaadir gudoomiyaha Cumar Finish oo u dhashay Muqdisho wuxuu damcay inuu sheego tirada dhabta ah Hajar soo booday wuxuu yiri kaamarada soo daftay kaamarad siray ay wuxuu yiri tirada ha sheegin warkaasi ma beenba ha sheegin tirada Hajar waa nin farmaajo macni ku beela Muqdishona uma uusan dhalanin Puntland ayuu ka soo jeedaa wixii baabaaya maxaa ka galay isaga bal fiiriya meeshan marka wax yar hadii been aad u malaysan marka la ku celinayna filimkaas xatooyo waay
okay ma aragtaan sida Cumar Finish macni loo hagayo oo loo amraayo oo macni cagaa dhulka loogu dhufanayo ma aragtaa waxa la leeyahay tiraha sheegin yaa dhahay taliyaha Baleyska Soomaaliyeed way federaalka Soomaaliyeed annaga warkaan idin sheegayna beenaad u malaysaan xijaarna waa la dhaa xajaarna waa la dhaa annaga warkaan idin sheegayna beenaad u malaysaan macni waxaan fiiri si kasta dad u baarto qaraxaasi Soomaaliga u maantay iga qor qaraxii hore cidda uu lugta la galay waa la ogyahay qaraxii hore 14 Oktoobar gurigii Sooba lagu qarxiyay isgoyska Sooba lagu qarxiyay baabuur laga soo gaday Talyaaniga la keenay Muqdisho Talyaani laga soo gaday si qaraxaasi loo fuliyo xilligaasi marka maxaa jirtay kacdoon farmaajo lagu kacsanaa baa jirtay farmaajo waa lagu kacsanaa waqtigaas mooshin baa miiska saarnaa madaxweynaha waan ridaynaa baa la lahaa mooshinkaasi si loo beerdareeyo baarlamaanka albaabada la isugu dhufto xildhibaanada loogu diro shacabka Soomaaliyeed oo la dhaho war Soomaalidii kumanaan go'day bay madaxweynihii doonayaan inay ridaan nimankan waa qaswadayaal si baarlamaanka loo yiraahdo oo baarlamaanka loo ceebaysto loo aamusiyo baabuur Talyaani laga soo gaday markab la soo saaray dekada lagu soo cabeeyay oo ma arkaysa biro culus la soo saaray ayaa la geeyay Banaadir sar ku taala afuustooy benziina la soo saaray ayaana lagu soo daray albarakada fududeysay hormowda fududeysay waa ogtii oo farmaajo jaga ka doonay waad garanaysaa ayaa ma arkaysa macni loo soo dhiibay qarax macni Sooba lagu qarxiyay maalintaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo reerahan reer Galmudug ayay shirbay ku qabsanayeen aagaasi inta badan ee Soomaali dhana ku dhimatay laakiin iyaga inta badan ku baabay way ku go'een reer Galmudug maalintaas walaalaha iyagu soo ma jeedid qaraxaasi Talyaani baabuur laga soo gaday oo dekada laga soo dajiyay si arinta loo marin habaabiyo aakhirkii waxay dhalisay mooshinkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga keenay in uu baaxsado oo aan macnihi baarlamaankii uu ka noqdo oo la yiraahdo dalka xaaladu galay gurmadow farmaajana uu macnihi karambiyadi cagaaran uu xidho vil uu isgeeyo halka la yiraahdo Madiina dhiigha laga shubo uu yiraahdo dhoolatus iyo riwaayad uu sameeyo ayay gaadhay walaalayaal war iyo dhamaantii marka qaraxa maanta ka dhacay ex control afgooy lambar 2 Soomaaliya meel kale ka raadinina Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha Baleyska Soomaaliyeed ninka la yiraahdo General Xijaar ama Xajaar ayaa fududeeyay oo fuliyay danta laga lahaana waxay ahayd haddana waa isla tabti October dib ugu noqo baarlamaanka Soomaaliya ayaa kacsan oo macnaheedu one man one vote ayay ka soo horjeedaan farmaajana tabtaas uu doonaya jaanis kale uu macnaheedu madaxweyne ku noqon karo ma jirto si uu madaxweyne u sii ahaado laba walxaad buu doonaya wuxuu doonayaa extension waxa la yiraahdo ku darsasho oo ah war marshal law baan soo rogaya amnigii baa faraha ka baxay waa in ugu yaraan 2 sano lagu daraa doorashada dhiigan bani aadamka reer koonfurta ee la daadinayo war dadka ku leeday maantay waa reer Galmudug iyo dadka Mayland u dhashay waa Soomaali oo dhanna way ku dhimatay iyo qowmiyadahan kale reer Xamar iyo Jareer Weyne waa macni kuma dhimanayaan iyagu war ii sheeg intaas oo qarax oo macni dhacaysa xitaa macni qaraxyada la fuliyo oo shabaabka kuwa ay soo qasbaan kuma jiraan ma arkayse reer taliya Xijaar iyo kuma jiraan amiire kaliya ka yiin marka isku soo wada duub macni qofka bali aadamka dadku inay xisaabtamaan baa loo baahan yahay macni ma aan in darbiga madax la idin galiyo ma aan dadka Muqdisho dagaay maayiga iyo maxaaga Muqdisho dagooy war in la idin sira ma ahan jidadkiini sababta loo xirayna waxa weey maalintii la doonana sidaas in la idin baabiyo way war fiiri qaraxan fulintiisi gaariga dhayanada marka laga yimaado war xamal oo dhan maxaa laba jid u furay hal jid maxaa u furay maxaa kala wareeg muddo 3 sano loogu hayaa Muqdisho dadka degan iyo dadka ceelasha degan baa ka badan dadka Muqdisho degan ma beentaya Soomaaliya ma beenba war marka aad tagtid garas baalay iyo weedow iyo buura kaba yaray iyo baydhaba yaray carbiska iyo ceelasha biya iyo ma arkaysa Galmudug yaray iyo Lafoole iyo ilaa iyo Afgooye ummadda degan ganacsiyada ka furan iyo Muqdisho maanta dadka degan
waxaa badan dadka macnihii gobolkan shabeellaha hoose dhulkan ceelasha biyaha afgooye ilaa iyo ex control degan baa kasii badan aan iswarsanna marka war cabdullaahi yuusuf axmed oo aad garanaysid iyo sheekh shariif sheekh axmed oo aad garanaysid iyo xasan sheekh maxamuud oo aad garanaysid waad og tahay baabuurta iyadoo la qarxinaayo balaayo ay taagan tahay oo ma arkaysa dhibaatada inta ay ka badan tahay dhib maanta mid ka badan maanta ma jireen baabuurta ceelasha biyaha afgooye intay soo baxaan muqdisho ay u gudbaan ayay otoda ka soo geli jireen oo naarkabood ay ka boodaan ayay bakaara sidaa ku geli jireen sababta keenaysa 2019 oo dhammaatay 2020 baabuur ceelashan biyaha ka soo baxay oo muqdisho aanu soo geli karin oo ex control uu uga wareeganayo war maxay tahay ma xilligii ruushka la joogaa ruushka waxaa jiri jirtay in loo galaa jiri jirtay bur iyo bariis iyo sonkor toddobaadkii waxaad cunaysid ruushka saf baa loo geli jiray macnii waxaa lagu leeyahay meeqa qof baa qoyskiina tii 2 qof siyaad bara markuu jooga afweyne ninii naag soomatiina kiilo sonkor ay idinku filan sitimaankii asbuuca kala la idinka iibinayo idinkoo iibsanayo waliba bariis intaas ay idinku filan sonkor intaas bur intaas ay idinku filan war dadku macnii ma sidaasa ma xilligaasa la jooga way dadka macnii farmaajo iyo dawladdiisu haddaysan doonayn dadkan maalintay rabaan inay baabi'iyaan oo siyaasad u adeegsadaan haddaysan rabin maxaa ma arkayse kumanaan ceelasha ka timaaday ay uga degaan baabuurta ex control afgooye kumanaan xamar ka timaada ee ku sii socota ceelasha maxay ex control afgooye uga degaan dadkii sidii ayax oo kale iyagoo lugeynaya maxay baabuurta ugu kala wareegsadaan leesh korontada madiina ama halka loo yaqaano ma arkayse dan wadaag sababta macnihii ay ugu kala wareegsadaan baabuurta isaga gudbaynin maxay tahay hogaamiye kooxeedyadii oo jiray ayaa dhulkan hadda aan tilmaamayno gawaadhidu ay isaga gudbi jireen walaalayaal xajaar mar kale aan ku celin doonaa xajaar qaraxa markuu dhacay cumar finish uu doonayo in uu sheego tirada 94 dhimatay iyo ma arkayse intaas macnihii 90 dhaawacantay iyo sheekadaas yaan lagugu sheekaynin boqolaalna way dhimatay boqolaalna waa dhaawac weeye waadna arki doontaan xajaar ayaan eegi doonaa xajaar ayaan fiirin doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo cumar finish isagoo kelida ka taabanayo oo dhahay tirada sheegin taliyaha belayska waay microfonkan gashanaya si fiican si aad u maqashaan qofkii soo qabsanayana doonta ku furan tahay xajaarka hawshan ka dambeeyay waa ninkaasi koofiyadda belayska wata weeye wuxuu u dhashay gobolka galmudug u dhashay general maxaa tiri ترى شيء بسم الله الرحمن الرحيم ترى شيء مركل يري أو حجار ويري أيوه بسم الله الرحمن الرحيم واركم بالله عمر فينيش نفسه دي سؤال الله هيستي سو مجدي بسم الله الرحمن الرحيم اوكي ما قاطي ترى شيء مركل يري عمر فينيش اوكي مركل ترى شيء مركل يري هالشيء مركل يري اوكي يري مركز بسم الله الرحمن الرحيم ورك مركز بالله كاميرا way soo xaday marka qaybtaasi kaamirada way soo xaday UK ayaan soo dhaweynayna salaamu alaykum UK السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم كفرت الصومالي إنا لله وإنا إليه راجعون مين مقشاسي في عام aad baa lagu maqlaa kaafiso ku soo dhawow barnaamijka qaraxa iyo hooga maanta dadka muqdisho iyo shabeellada hoose ceelasha qabsaday ka hadal
إنا لله وإنا إليه راجعون ماشي waxaa ugu tacsiyeenayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku rafaaday ee ku dhamaatay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee halyeeyada wadankan iska laha ahaa ee ummadda Soomaaliyeed ka baxay hooyooyinkooda waxaan leeyahay Ilaahay idinka sabarsiiyo anagoo dhan Allah naga sabarsiiyo meesha dhibaatada ka dhacday rafaada ka dhacay madaxdii Soomaaliyeed horta way tacsiyay ilaa tacsiyay maxaa ka horeeyay taliyaha waa u jeeday ereyga uu dhahay waxaan ka carooday markii ugu horeeyay maxaa la dhahay isha Umar Finish oo yiri meel kale u sii socdeen lagu lahaa meeshan ka muhiimsan erey waxaan ahayaa jiro tema u waayay life inaan soo galay soo soo gali doona insha Allah wuxuu yiri meesha meel ka sii muhiimsan dhalinyaradii dhamaatay askartii dhamaatay hooyooyinkii dhamaadeen gabdhihii yaraa iyo wiilashii Soomaaliyeed ee wadanka wax u qaban lahaa ee meesha ku lacday maxaa la isha ku dhamaaday wax ka sii fiican gudaha ku jiro isha bal uu ku hadlay Umar Finish markuu ugu horeeyay uu dhahay ereygaas oo ereyga anaga la yaaban ayaa haddana waxaa la soo geliyay taliyo dhahayo ha sheegin inta dhimatay oo bariisana oo dhahay maxamed xasan axmed bariisa aqaanaay uu leeyahay 96 qofooda dhimatay war dadkaas mas'uuliyiin war dadkaas anagana bahdilaan rafaadinaayo war ummadda Soomaaliyeed ka caddoonka dhalinyarada hal la bilaabo war dadkan heeryada iska rogno war aan iska saarno war nin noo soo noqonay in waa raadinayo in asaga sharaftiisa iyo nidaamadiisa ilmihiisa intuu wadan shisheeye geestay hooyo Soomaaliyeed cunug ee ku soo korisay rafaad iyo suuq iyo aabbo Soomaaliyeed sida uu ku soo koriyo waqtiga uu hana qaadi lahaa inta loo dhigo qaraxyo ugu leeynayo maxaad ka sharafun markii la dhahayo guduhu sii gali lahaa halyeeyadii waa ka hortageen ku ciidanka Umar Finish taas uu yiri talabaad kaliyo meesha taagan ha adoo raalliya su'aal haddaan ku weydiiyo macnaheedu baarlamaanka Soomaaliya maantay oo fariisan lahaa oo bariyahan doodayay one man one vote oo diidan in loo codeeyo dood uu macnaheedu qabto baarlamaan la rabo iyo qaraxan maxaa isku soo beegay aragtidaada anagoo og macnaheedu arrinkaasi in farmaajo uu ka dambeeyay horta wuu isleeyahay waxa isle in oo mission inoo ahaa horta taas way caddahay inkastoo kuwaan wax qarxiyo ay tahay siyaasad ee diin ahaan waxna ay ugu qarxinin culimada sheeganaysa dadka laysay waa siyaasadana dawladdu way isku fahmi waayeen inay meel fariistaan ay ka wada hadlaan war hana laynine war waxaad rabtiin noo sheega al-shabaab hadda soo ma bilaaban 86 ay soo bilaabatay ilaa hadda ay socotay bal dadkan waa dhameysteen dadkiinana waa meel hala fariisto taas dawladdu way dhiili weysay way ku fashilantay tan labaad barnaamijkan one food la sheegayo oo baarlamaanka rabi inuu ka doodo iyo waa iskeenaysaa missionkan wuu iswataa waa mission la wada fulinaayay oo dadkan lagu argagixinaayay maadaama baarlamaanka uu ka doodi lahaa taaniyan waxaan kuu sheegayaa geesiga koonfurtow maxaa keenay one food ma muqdisho laga codeynaya isha mase degmada bay kaliya laga codeynaya gobolada dalka waaba gobollo aan gobol kale u gudbi karin magaalada muqdisho diyaarada laga raacaa daafeed lagu tagaa daafeed diyaarada laga raacaa baydaba lagu tagaa ma jirto meel ugu marka hadaarta diyaarad ama doona ku soconay intee one food ka iimaanaysa isha maxaa ma hurdaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo masaxas alqeer hurdo one food ma dhici karto baarlamaanka sidii hore ahaa odayaashii soo dooranayeen oo ayagaba laftirkooda loo hanjabayay taas aan dhihi lahaa hadii oo la rabo in maxaa laga baxo taaniyan saddexdan sano aan soo gudubno wax la qabto male jidkan lama xureyn oo ka baxa maxaa la afkooy ka baxa ilaa baydhabo tago wali dhibaato ka taagan kan marka aad dhibaato ka taagan ilaa baraabo jidkii lama mari karo dawladda maxay qabatay marka banaanka bal ha soo dhigto wax ay loo qabatay ee u sheeganayso maamulkooda qabanayo u leedahay shacabka bishaan kaligiisa waa aragtay waa lagu dhamaaday maxaa la ii sheegeen dhowr qof ku dhimatay sumcadana way nooga halaawdo hoteelada rafaada ka jiro magaalada rafaada ka jiro kiisooba waa ogeed intaas oo qof ku waa dhiiga dadka Soomaaliyeed aan la banaysanaya ee dhalinyarada Soomaaliyeed ha kacday xishoonine yaan loo meerinine dhalinyaro warkan wax qarxinay kala qarxinayo idinka isla dhulkan idinka iska leh inta meel wada shirtaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ka codsanaya inay dadka wax qarxinaya dhalinyarada inta meel isugu imaadaan dhahan war annaka la dilo si walaaleena tiine bal meel aan isugu imaano war maxaad rabtaan dadkan ma aha waa wada duulayna waa iska bixinayna kaafis su'aal haddaan ku weydiiyo
ma arkayse gaarigan gaari dhaynuu ahaa horta marka ugu horreysa maxaa keenay in dadka ceelasha degan markay xamar soo aadayaan baabuurtooda macnihi ay kasoo degaan oon baabuurta xamar ay toos usoo geli karin iyo dadka muqdisho macnihi iyaguna inaysan ceelasha baabuur toos u tegi karin maxaa kala wareeg keenay maxaa korontada sidoo kale macnihi kala wareeg keenay taas waa qodob midda kale maxaa laga baran karaa generaal xijaar taliyaha belayska shalay ayaan dhaweydna ahaa taliyaha ciidamada xoogga ku-xigeenkiisii ahaa macnihi qaraxa markuu dhacay dhahaya ha sheegin tirada dadka dhintay iyo dadka dhaawac ha sheegin maxaa ka baran kartaa meeshaas horta ayaan daro Soomaali u soo hoyatay reer koonfurta u soo hoyatay waay kan weedow ka soo baxay ama ceelasha ka soo baxayna caasimadiisa sharaf iyo nidaam badu ku soo gali karin kan ka baxayna haduu ceelasha ilaa afgooy uu sharaf iyo nidaam ku tagi karin oo hataa waxa ay dhow dhici jirtay waa ogeed isbaarooyinka ceelasha yaaliin in la isku leeyin jiray la isku dili jiray dad ayaan daraa haysato ee guryaha soo baxa waxaan leeyahay aniga kuma sii fogaanay teemka igu yar shaqo ku jira waxaan leeyahay ka soo bax guryaha dhalinyarada hooyooyinka waa dhamaateen guryaha ka soo bax meel alle meesha joogtiin kastadiina badbaadsada dhulkiina badbaadsada israaca kan wax qarxinay kala qarxinayo Soomaaliyeed ilaahay ka cabsada yaa mission li soo dhisin nin loo lacag idin siinin war idinka iskala dhulka ka isgaabinayo wadanka waa ni laga qaadanaa marka dhamaatiin shisheeya idinka qaadanaa shisheeya xalana fadhiyana iska kiciya asaga hubka soo dhiibo bambooyinku wax qarxinay safaaradaha la keenaa waxa la keenaa xalana la keenaa waani la laayay idinka islaaynaayay isdilinaa iska daay walaalaati ilaahay ka cabsada dad isla dhashtaadeen aan reer quraac reer qasacad marka saal family waa Soomaalida iska daay waa isdishne ku salaamay aada maanta u tiiraayeen sana wallahi ugu xumay dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhacday iyo madaxdii sidee u hadlaayeen aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd kaafiso abeekar oo macnihii gabar u dhalatay ma arkayse magaalada muqdisho gabar Soomaaliyeed maanta tacsiba u taala dadka Soomaaliyeed sida xaqiiqada ah dhimashada tirada hadda ma arkayse meeshan la soo dhigay ama la sheegay way ka badan tahay bal intaan ayaa la rabay in la qariyo markale waxaan eegi doonaa marka hadalka Cumar Finish ayaan dhamaysanayna qofkii soo wactamayana WhatsApp waa u furan yahay insha Allah WhatsApp kay بسم الله الرحمن الرحيم اوكي السلام الله عليكم وحاسو قلي مواطنات السلام الله عليكم السلام عليكم آدم وعليكم السلام سودو تعسيبا جرتا قرحة دعاي دادك Soomaaliyeed way baabeen aragtidaada hore u gal إن الله وإنا إليه راجعون عليه مركوها ميكروفون أفكار إن شاء الله أنت ما مغلسة والله مغلا يا كسعو آدنا وهرت أنت دمت الله ونحرسته آمين أهلكي قرابتي تقولي ذن صبر إيمان الله كثير آمين أنا هتوي لو ويلا لو جرتي وحي لقرناي أنت كلا عدكاga سفي على الله مغلا عدكاga ما أركيسه أدنى مغلسة xogo qadkaaga culus aan u maleynaya ma arkayse waa kugu soo celinaa kale qofkaasi waxaan war kala wacaynaa insha Allah taala si aan macnaheeyo si fiican ugu maqli karno walaalka ma arkayse inay hadashay rabtaa inay macnaheeyo wax sheegtay rabtaa waa soo dhaweynaynaa biidni Ilaahi baari dhimashada inta way ka badan tahay sida akhbaarta ay nagu soo gaarayso laakiin tirada saxda ah ilaa hadda ma hayno balse boqolaal dhimashadu way gaaraysaa sida xaqiiqada ah intaan hadda Cumar Finish uu sheegay oo macnaheeyo aad aragteen xitaa lama ogolayn in la sheego sida aad arkayseen ma arkayse macnaheeyo lama ogolayn oo xajaar oo dhahaya taliyaha belayska ha sheegin ayaad aragteen oo kamaradu ay soo xadaysay marka dadka muqdisho degan iyo macnaheeyo dhulkan kale in la baabiyo koonfurta waa loogu talagalay da iyaguna ma arkayse ma fahmayaan xaqiiqada sida dhabta ah waxaan ku celinaynaa muwaadinadaas hello assalamu alaykum
مركله هي السلام عليكم. وعليكم السلام آدم مقلس. هذا النظيف لغو مقلايا هذا الكاغ isdaba dhigo soo koob marka taliya bilayska tirada sheegay uu leeyahay maxaa kaaga baxay taas warninka asaga dadka laay kowda ana horta walaalo intii dhimatay Allah u naxariisto ehelkoodii qabadoodan sabab iimaan Allah ka siiyo laakiin ana waxaan u sheegayaa Soomaalida dadka oo xamar iyo meelahaas degan war iska qabta dadka idin dilaya waa farmaajo iyo ninka oo dhahaya tirada ha sheegin oo ninka huteenay oo dhahaya tirada ha sheegin ha ku dhawaaqay ninka dhahaya ninkaas mas'uul u ah dadka wadanka degan xamar iyo meelahaas dadka degan ma garanayo xamar weligeena ma arkin laakiin waxaan leeyahay dadka baabuurka horta meesha uu soo maray meesha askara joogtay dad madaxa joogtay ku soo maray number 1 waa wax looga tala galay midaada kale aadana waxaan ku sheegayaa ninka oo dhahay dadka anta dhimatay ha sheegin markii ka bacdina oo bismillaahir rahmaanir rahiim meesha ku soo galay iyo midka xuno qalafsan oo dheer oo yariis oo lagu bedelayo la naxariista oo ebarkiisa asaga rati meel la dhigto asagana hadda neesto teeda kale waxaan u sheegayaa dadka xamar dega iyo dadka dhulkaas dega oo maanta la baabiyo hawiye horta waa u dhamaatay finish hawiye waa la baabiyo farmaajo 91 oo aarsanaya aarsasho u imaaday inuu Soomaali wax u taran oo ma imaanin marka nasiibkooda ay qabaan haday iska dhacayaan ayagoo u taala laakiin ani waa u tacsiyeena dadkii laga dhintay teeda kale waxaan fariin meesha ugu faraa daahir calisow ninka la dhahaay ani hadal badan ma rabi inaan meesha ku jiro daahir calisow waa inuu maanta live soo galaa because dadka meesha ku baaba'ay dadkiisa u badan dad markii oo meel qarax ka dhacay wuxuu yiri digli marifla beesha raxween baa macnaha oo qarxisay meeshaas oo dadkeena ku baabi'isay oo weli beel kamid ah oo leysaan qabiilka la dhahay beesha leysaan la dhahay yiri daahir calisow anta dad oo waxba ku dhiman oo adiga la dadkiisa dadka 14 wiil gaalkacay nooga disheen oo qof idin la hadlayaan Mooriyaana dishe dhahdeen oo haddana ayaan dhow qarax meesha ka dhacay aanin leysaan baa qarxiyay beesha raxween kamid ah leysaan qarxiyo yiri daahir calisow aniga horta umada anta dhimata Allah u naxariista laakiin afur daahir calisow soo gal live hadda ku taalay nacsi oo nacska looga yahay daahir calisow u sheegoya ha soo gala live dadkiisa leeyahay anta raxween mashquulsan yahay oo raxween baa dad leysay raxween baa saan yeeshay uu ku hay ayaga qarxiyeen baabuurta weyn ayaga wataan ayagana dadka qarxiyeen ayagana isqarxiyeen macal farmaajigooda wax dhan buu isleeyay ma fahamtay daahir calisow ragnimadii daraad oo anaga nagu afligaadeynay oo raxween hal laayo raxween hal baabiyo raxween baa saan wax yeeshay uu dhahay nacaska yaa ha soo hadla maanta raxweena baabiismee 150 kala qarinoy oo ha sheegin dhahay dhagiisa ku maqla daahir calisow afkiisa u raay ha soo taaga maanta ma fahant aad baad u maasantahay waxay kugu soo celinaa ikaadi villa Soomaaliya ayaan rabaa inaan macnaheeyo ka qabto adoo raaliya wax yar ii dul qaado insha Allah kugu soo celinaya walaal qaali hadalkaaga bartiisa ka sii wadanaysa haday wax soo kordheen ma arkaysa ayaan eegi doonaa hadii Allah uu dalay oo ka raali noqdo waa kugu soo celinaya walaal qaali walaalka waa ku celin doonaa insha Allah walaashaas insha Allah laakiin waxaan rabaa nafsadayda inaan call degdeg ah aan ma arkaysa helo hadii Allah uu dalay oo ka raali noqdo walaalayaal hadalkeenu noo socon doona wixii soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa falanqayn iyo waxaan ku jirnaa stuudiyaasha macnaheeyo baaritaano dheeriya ayay weli ku jiraan balse laakiin ma arkaysa ilaa hadda Southern Media waxay ku guuleysatay hello assalamu alaykum hawlan ku jira hadda macnaheeyo live aan ahay boqol live aan ahay war macnaheeyo waqti badan ma hayo maxaa ku soo kordhay qaraxa macnaheeyo baabuurkan dhaynada ah oo xog dheeri aad ka haysaa ya ha okay ninkaas kabtanka uu ku dhintay Allah ay raxman laakiin macnaheeyo بليس كسوء بابل سومان دانك فرماجوا
dhanka muqdisho ka soo galay marka baarlamaanka in lagu fariisiyo ma loogu talagalay siyaasadiisa maxay ahayd idinku aragtidiina lagu baajiyo okay farmaajo ka dambeeyay waa fahamnay aragtidiina marka taliyaan blaze kala macnaheedu fududeeyo ahaa okay waa fahmay live aan ku jira oo si dhamaystirayaa laakiin ninka waday ma sarkaal blaze buu ahaa dabla blaze miyuu ahaa ninkaasi macnaheedu muxuu ahaa ninka baabuurka dhaynada saarnaa ee qarxayada ay marka hal qof muu ahaa mise laba qof oo balaysayna ka tirsanaayeen mise shacab aad baad u mahadsan tahay oo kugu soo celin doonaa markaan live fadhama insha allah waxyaabaha soo kordhaya qaraxa waxaa weeye macnihii baabuurkan dhayanada qaraxa laba qofood baa saarnaydaa la yidhi sida sirdoonka uu xaqiijinayo waxaana uu ka yimaaday mar kale iyo mar kale intaan live ku jiray markii labaad waahay dad aan is ogeyn oo aan isku meel joogin aan isgaranaynin oo laakiin sirdoonka ka tirsan ay noo warramayaan macnihii baabuurkan dhayanada ah magaalada muqdisho dhanka muqdisho ka yimaaday muqdisho gaari iskama socon karo oo control ma gudbi karo ilaa iyo waa in checkpointi uu maraa balayska waa inuu ka warqabaa ceelasha biyaha haddaan u noqonana ceelasha biyaha baabuur dhaynaa maba ka yimaadaba dhankaasi mootooyin iyo ma arkayse caasiyayaal ayaa ka yimaada gaarigan marka sirdoonku wuxuu leeyahay farmaajo siyaasad uu leeyahay doorashada one man one vote maadaama laga diidayo inuu extension uu ku samaysto waay plus baabuurkan dhanka muqdisho ka yimaaday xooshaa laga soo geliyey xoosh marka laga soo gelinayo khasab waa isbaaro inuu soo maro khasab waa checkpoint inuu soo maro yaa soo dhaafiyey gaari qarax buuxa checkpointyada yaa soo dhaafiyey that's a question haddii macnihii balayska aan waxba ka ogeyn taliyaha balayska generaal xajaarka hadda dhahaaya macnihii tirada ha sheegin dhahaaya haddaan waxba ka ogeyn sidee lagu soo gudbiyey su-aalahaas ha la isweydiiyo baabuurkii waa la soo gudbiyey wuu qarxay marka uu qarxayo oo ex control afgooye oo dadku ay dhoobayin kala wareeg uu ku qarxay taliyaha barayska jaa uu taagay automatically qaraxana ma oga baa lagu akrinaya war nin buuhood la ku dhashay iyo puntland muqdisho haddii lagu baaba'o maxaa ka galay adduunyada saas uma shaqayso adduunka gobolka ammaankiisu waxaa loo dhiibaa dadka u dhashay waa sababta maalin iyo habeen aan ugu doodayno oo aanu leenahay war muqdisho dadka u dhashay waa in ay ammaanka sugtaan may iyo maxaa xaafad kasta midka uu mudan yahay loo dhiibo degmo kasta loo dhiibo waayo hadda haddii garowe la yidhaahdo nin maymaya loo dhiibaya ama nin ma arkaysa macnihii galmudug ka soo jeeda ayaa garowe amnigeeda sugaya haddii la dhaho war amnigaasi ma sugan yahay soomaaliya gar allay taqaanaayo war garowe degmada garowe haddii nin cadaada ka soo jeeda loo dhiibo ammaankeeda ma sugan yahay annagoo og puntland iyo ma arkaysa galmudug midda dhex martay 91 dagaalkii xadkii cawaaraha gaalkacyo laba ay u kala jaftay baf 30,000 iyo 10,000 ay iska dileen okay haddii la yiraahdo tusaale nin maay u dhashay maygii la xasuuqay degmada cadaado ammaankeeda ha sugo ma shaqaynaysaa ma sugmaya ammaankaas ma shaqaynayso war lamid waay magaalada muqdisho war wiilka u dhashay baa amnigeeda sugi kara war Ethiopia sidee u nooshahay fiiri nidaamka qabaliga xaafad walba ninka u dhashay baa macnihii
qabaleyka oo taliyo ka ah xaafaddaa qofkii soo galaya waa loogiyaa caawo oo kusoo biira dunida saasay u shaqaysaa federaalka adduunyada saasuu u shaqeeya konfederaalkana saasuu u shaqeeya tuulo kasta ninka u dhashay baa balayska abadal aabidiin kan u dhashay ku barbaaray kaasa macnihii balays looga dhigaa taliyo looga dhigaa degmada ama tuulada ama xataa makacdada adduunyada marka waalida ka jirta muqdisho iyo koonfurta soomaaliya waxay tahay war gobolka shabeellaha hoose degmada markaa waxaa la rabaa nin cadaada ka soo jeeda in loo dhiibo ammaankeeda ma sugmaya ha macnihii waxay la mid tahay macnihii waraabe hilib ku aamin waa degmada walaweyn baa waxaa la doonayaa nin ma arkayse puntland ka soo jeeda danab in taliya looga dhigo ma shaqaynayso ammaankeeda ma sugmaayo magaalada muqdisho ayaa waxaa amniga loo dhiibayaa war nimaanba u dhalanba shaqana aan ku lahayn oo hadduu rabo cugdad uu qabo ma shaqaynayso muqdisho waa in loo dhiibaa dadka ku dhashay dadka u dhashay ee ku dhashay waa in loo dhiibaa amnigeeda degmo kasta waa in qofka ka naxaaya loo dhiibaa macnaheedu waxay tahay qaraxa markuu dhacay gaarigan dayanada ah isla markii taliyihii uuba taagay ha sheegin uu leeyahay xisaabta ha sheegin annagiina waa go'nay salaamullaahi calaykum waxyar maigia iga dhacay salaamullaahi calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aadaan u fiicanahay bal hore u gal aragtidaada qaraxa sidee waragtaada soo koobay aragtidaas qaraxa iyo waxyaraha daraya ku sheegay waa insha Allah 2 daqiiqo badan qaadanaysa gowdha haye ku soco walaalkay insha Allah soona dhow horta qaraxa tacsiyaanka dhiibanaya dadka naga dhamaaday ilaahay naxariisto mid kale aan ku daray waxay ka taqaanaa Mukhtaar Rogo arintiisa qaraxan way soo taan waxay isku taan ku sheego haye Mukhtaar waxa asagoo aan musharax madaxweyne isku soo sharxin loo xiri waayo oo fasax u ahaa markuu madaxweyne baydhabo isku sharxana loo xiray ma taqaanaa horta dhiibo fikradaada walaalkay insha Allah microphone-kan fikradaas aan ku waa microphone ku dhaway kowda haye Mukhtaar wax kale looma xirin markuu madaxweyne baydhabo soo sharxay koonfur galbeed waxa loo xiray waxay ahayd Mukhtaar maadaama uu ka soo tanaasulay fikradii iyo aragtida xumaa ku jiray maadaama uu ka soo baxay oo dadkii uu cadow shabaabkii uu kamid ahaa maadaama cadow uu ku noqday uu ka soo horjeestay marka madaxweynaha hadduu noqdo waxa loogu diiday in madaxweynuhu waxay ahayd waayo god walba ay ku jiraan uu ogyahay soo moogid uu ka soo saaraya god walba ay ku jiraan shabaabka god walba ay ku jiraan xabad buu yaqaanaa asagana ku filnaa intaan ciidanka la Soomaaliya intaan la gaarin ba ciidanka asaga oo koonfur galbeed ku filnaa ma garad aad iyo aad marka Mukhtaar wax kale uma xirna wuxuu xirayahay qaraxa uu soo afjarmin qaraxa markaas in jaranjar laga dhigto dhiiga dadka lagu ganacsado oo koonfurtana lagu baabi'iyo exactly intaas uu xireen wax kale uma xirno marka koonfur shabaab inuu ka dhamaado waxaa macalkayse Mukhtaar Robo uu ka dhamayn karaa marka hadda hadhowdii mashruucii oo dawladnimada beenbeenta ahaa ayaa dhamaanaysa isla xisaabtana imaanaya marka tiyaa la diidaa alla yacizak inta adle fikradaas way u raacaysaa sababtoo ah Mukhtaar Robo markuu madaxweyne noqon lahaa koonfur galbeed shabaabkan uu cirtir lahaa marka farmaajo iyo xarmaada iyo qeyrlaada waxay isku raaceen maxaa la ninkii xarmaajo iyo qeyrlaada wax kale ma isku heshiin waxay ku heshiin war ninkan Mukhtaar Robo leeyahay haddii madaxweyne uu noqdo al-shabaab buu soo cirtiraya al-shabaab soo cirtirna qandaraaskana dhamaanaya ma garad aad iyo aad marka nimankan farmaajo iyagaaba shabaabka macnihii qaybka waatan macnihii adduunyada ay weydiisay qadar taleefanada kasoo dhacaya madaxweyne maxaa ka og tahay la leeyahay marka shabaabkaba qayb ka mid a waa farmaajo iyo tiimkiisi farmaajo iyo qeyre qarax aysan ogeyn xamarka ma dhaconiyahow aad iyo aad marka ku salaamaya arrinta meesha laga ogaado okay aad buu u mahadsan yahay muwaadinkaasi Soomaaliyeed macnihii caqliga furan miskaxda furan oo sida xaqiiqda ah barteeda dhigay annagu waxaan u baahannahay bahasha in barteeda la dhigaan u baahannahay ma doonayno in meelaha macnihii la warwareego ma sheegayo insha Allah waa mahadsan tahay waxaan soo celin doonaa walaashii hadaaya aan u ballan qaaday inaan ku soo celin doono
codkeeda ay dhiibato laba iyada macnihii ku qaraabaa ku dhimatay siday sheegtay sarkaal belaysa waa uu ku dhintay oo ma arkaysa Maryland ilaa hadda intaan ognahay saraakiil kalena way dhinteen halo ha ku soco marka oo kugu soo noqona insha Allah aragtidaada laba kula dhalatay ama kugu qaraabaa ayaa ku dhimatay qarxii maanta ex control afgooye ma arkaysa inta la garanayo inta la garanayo laba nooga jirta Soomaalidana ku baaba'day Soomaalidana naga dhintay labadaas waxaa lahayd dad badan Soomaalida ku baaba'day ha u badnaadaan dadka daahir cali soo ku soo jeeday iyo dadka anaga aan ka soo jeedna laakiin wax waa ma taqaanaa anta ada qof walaalkaada oo xumaato ku geysan dhibaato ku geysan anta ku maqan tahay adna mid baa kugu soo maqan aad iyo aad daahir cali soo wuxuu dhahay shalay dadka la maqlay Facebook umada dhan aan maqlays si fiican lagu maqlayo waa lagu baabiyay dadkan waa lagu baabiyay dadkiisana waa lagu baabiyay hindihiisa daahir cali soo uu fiirnay maanta ninka oo madax way meesha leeyahay oo dhahay dadka dhintaan wareha sheegin tiradooda ha sheegin ninka juqeynay daahir cali soo maanta live soo gala daahir cali soo waxaan u sheegayaa dadka la leenayo horta raxweyn hawiye way dadka ku baabay waxaan u sheegayaa hawiye sidii siyaadba Soomaaliland ku baabiyay ayaa farmaajo idin baabiinaya hal idin kama soo haraya hal aad iyo aad hadda iska celin wajin hawiyo iyo raxweyn hadda farmaajo ka qaweysi gabar idin kama soo harayso wallahi sidii siyaadba Soomaaliland u baabiyay oo sidii dawlad cadow ay inuu la dagaalamayo oo kala diyaarad uu ugu rusheey Soomaaliland saas baa idin dambeys dadka oo xalan la meesha dhahay fadhiyaan oo farmaajaha tagali karin magaalada dhinac way dhistaan idinkana waa baabiisin wadankana dadkaas qaadanayaan waa idin dhamaatay aad baad u mahadsan tahay walaashay kool kale aan sii qabanaya gabadhaasi waxay ahayd gabar Soomaaliyeed u dhalatay jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland oo sida xaqiiqada ama arkaysa barteedu dhigtay xaaladdu sida ay tahay waxaan qabanayaa walaal isoo wacaya isagana salaamu alaykum salaamu calaykum وعليكم السلام صدح دقيقة أيات شانس لهذا السود وهو قرح مجالات مقدسة كده عين أركتي هذا aragtideeda aniga waxaan ka qabaa qaraxaasi inuu qarax dee la soo shaqeeyay uu yahay oo loogu talagalay ummadda in lagu kala yareeyo aadiyaad yaad isleedahay qaraxaasi uu ka dambeeyey shabaab inuu ka dambeeyey ma isleedahay maya qarax saasaysan buu u egyahay qaraxaasi marka la eego qaabka u dhacay iyo maxaan ku idhahdaaye iyo waddada dee loo maray iyo talihii hadlayay lahaa ha sheegin tirada ha sheegin oo Facebook oo dhan haysta aadiyaad midda kale waxaan kala kugu darayaa Umar Finish watii uu hadlay uu yiri baalkii barnaamijkan ciidamada shafka u dhigtay ciidamada hay'geesiyaasha ah qaraxaas wax ciidan ka hor istaagay maba jirinba qaabka u dhacay meeshuu ka dhacayna waa dadkii wada arkayay way wada sheegeen aadiyaad marka midda kale aan ku raacinayo waxay tahay ninka Umar Finish wuxuu yiri meel muhiimsan baa loo waday iyo dad madax oo aad u muhiimsan baa loo waday buu yiri shacabka cid ka muhiimsan ma jirtaa shacab baa lagu laayay 100 qof 200 oo qof dad ku dhow ma beesha ku nafuwaayay ma shacabka ka muhiimsan yihiin dadkan uu leeyahay meel muhiimsan baa loo waday aadiyaad adiga aragtidaada maxsideed u aragtaa macnii qaraxan waan aragnay laakiin baarlamaanka oo waayahan doodayay oo maantana macnii rabay inuu u fariisto one man one vote in loo codeeyo oo farmaajona uu ku qanacsan yahay in one man one vote laga dhigo haddii kale extension qaraxan inuu dhaco baarlamaanka intuusan fariisan ka hor sideed u aragtaa walow baarlamaanka uusan baaqan kulankiisu waa wax siyaasadaysan inay tahay cid walba way aragtaa cid ay ka qarsoon tahay maanta mabalaha Soomaali way wada aragtaa qarax siyaasadaysan weeye farmaajo inuu ka dambeeyana dee shaki ma lahanba waayo waxa ugu talagalayba in maxaan ku yiraahdaa ummadda lagu kala yareeyo kama naxo ummadda waa arxan laawe ummadda aan ka naxin waad arkaysaa qof walba oo garanaya barigii uu dhihi jiray ambaar iyo tacsiibaan la taaganahay annaga baabuurtan gadaal ka gali doonaa haddaan wax ka qaban weyno annagaa weerari doona annagaa waxaa yeeli doono maantana waad aragtaa wuu dhuumanaya xataa uma quuro shacabka inuu yidhaahdo uu ka naxo xataa uma quuro marka arxan xumada ka muuqata ummadda loogu talagalay weliba
ummadda reer Mayland loogu talagalay weeye marka insha Allah waynu ka bixi doonaa awoodana ilaah baa leh laakiin dadaalka waxa laga rabaa ummadda reer Mayland inay dadaalaan iyo Soomaali oo dhan inay dadaasho insha Allah anu taasan ku daraya ugu dambeyntii aad baad u maasanta ugu dambeyntii su'aal haddaan ku weydiiyo qaraxii October waxaad moodaa iyo qaraxan marka siyaasadda aad fiirisay inay isku beegan yihiin qaraxii October sooba ka dhacayay waxaanu garanaynaa in mooshin markaas uu jiray boloomika siyaasadeed ay furnayd madaxweynaha mooshin uu ka yaalay qaraxii markuu dhacayna waa tii mooshinkii laga laabtay oo macnihii uu faarfaaray haddana maanta macnihii boloomika siyaasadaysan baa furan campaign baa loo socdaa doorashuu rabaa ama extension ku darsasho marka macnihii labadan soo ma moodid in ay isku marka waa muuqataa way muuqataa mid siyaasadaysan inuu yahay way muuqataa ummadana dhiigooda siyaasad laguma geli karo qof ummadda islaamka in la laayo dhiigooda siyaasad laguma geli karo siyaasadna ma galo marka insha Allah farmaajo waqtigiisa uu dhamaaday inuu dib noogu soo noqdana dhici maysa insha Allah billahi alkariim haday dhacdana xabad baa ka xignaa dan Soomaali weynna aad buu u mahadsan yahay muwaadinka Soomaaliyeed oo studio sida tooska ma arkaysa igu waramay waan u mahadnaqaynaa walaalkaasi wuxuu cabiray siyaasadda sida ay ahayd barteeduna dhigay qaraxaasi shabaab kama dambeyn buu yiri annagu horaba aan u sheegnay qaraxan waa qarax macni maxamed cabdullaahi farmaajo uu bahalkeeyay uu soo diyaariyay baarlamaanka fadhigiisii maanta uu rabay inuu ku fashiliyo bacdama cabdullaahi farmaajo uusan aaminsanayn uusan isku kalsoonayn in uu macni soo bixi karo ku darsasho inuu helo ama one man one vote ban ah oo macni qaxootiyada inta dad xaliimo yar 77 okay waxaan u malaynayaa disconnected ayaan noqonay daqiiqadii aan ma arkaysa hawada ku kala maqnayn garanay qaraxaasi waan fahmnay laakiin waxaa jira mas'uul isagu ma arkaysa macnihi meel saari lahaa qaraxan ayaa jira oo macnihi hadda uu ka dhawaajiyay walaalkan ka horeeyay mas'uulkaasi waxaa la yiraahdaa madaxweyne Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa lahaa منصور معني الشباب تضبط سنة كاملة أيوة لا دجالمي وحنا ضن إنه صاف جراي أيه لوجا سل لوجا دكتور ماركيس معنيه سلسلة شرنتر ديجا بني آدم كأ معني أن لا صاف جرين نكي رنت وتي ربي إنه صاف جرو نمان كان خواريج تاع معني إسلا بركي والله شرقولي ودي قرن كان لو أديك صدق قردرة لو جحري رأيني سنة حسوس أقول نقولنا مركب ما يبغى جيانه وسين كويرلي دكتور أمبارنا ومتان أردن يأمبارنا قولنا هان ما يبغى أمبارنا أقول تيجينا أو يهندا صورنا هودا أمبارنا سلمته إنه ما يحصل شحنا لكن يكل تالي ما دور من كوي أنا أصلي هو لون كوي من أبي أقول يهندا ينتظرني دور كاسمي يوكو أجيبني يا متكرر لجرتي ما دام يدا أتمي بسي شيء قالوا سي جزاي إن شاء الله تعالى هدي أنا حلقة كونفور قال بيدنا تقول يسده إني أنا ما دام أساتذة أن أرضي لي أنا هذا دونا ما يوه الدرسيو بسيانا أنا هقول بيدون إن شاء الله تعالى أقول يا أنا بديجان كمان بعدي جبت الجرة اللي بدل كل روجنا هو أنا كقول إسمي أنا موير دونا لا تلقى دونا سأندر يرانا سأندر غلانا ما يسوي بيانا نهدون إن شاء الله تعالى. السلام الله عليكم قدومية. وكسر نقد دونا قدومية مدحوين مختار ربو يا ماركيس أنجعل هاي إن ونورد ما يسترو إرجع معنيه لجوه الرأي. ما يبغى أبدينا جيكا ومتى دفاعيا بان تعدوية برميها كدولي عدوية راس برم ما يبغى مباهنيا ما يبغى أخذونه أي كونفوز البيت ورث دفاع أكبر أي كونفوز البيت ورث دفاع أكبر أي كونفوز البيت ما يبغى أخذونه أي كونفوز البيت ورث دفاع أكبر ما يبغى مباهنيا ما يبغى أخذونه أي كونفوز البيت ورث دفاع أكبر أي كونفوز البيت
dalalka difaaca kor ay koonfur galbeed may baayada doonaan ay koonfur galbeed dalalka difaaca kor ay koonfur galbeed dalalka difaaca kor ay koonfur galbeed qorshika difaaca kor yaa doon insha allahu tacaala waa garan madaxweyne mukhtaar robow waxaan u malaynayaa waxa lagu weeraray waan isla aragnay wax kale oo lagu qabsaday ninkaasi ma jiro sanaacatul mawt warshadan sunta ah macnaheedu aniga soo afjaraya musiibada maanta taagan ma arkaysa magaalada muqdisho qaraxa loo geystay dadka la baabi'inayo eberka laga dhigayo waxa uu diiday waa intaas qaraxii October markuu dhacayna madaxweyne mukhtaar robow wuxuu yiri waraysi uu dhibay war luuqad aan xabad ahayn garan maayaan uu yiri mawjada marka shabaabkii oo sharciyeysan oo villa Soomaaliya shaabada macnaheedu la siiyay madaxweyne laga dhigay ra'iisul wasaare laga dhigay sirdoonka loo dhiibay ayuunbaa ma arkaysa mukhtaar robow soo qabtay oo xiray maxaa la diidan yahay wuu soo afjaraya sanaacatul mawtka qaraxyadan hadda macnaheedu qaraxyada waxa sameeynayo dhan ninkii soo afjari lahaa waa kan laakiin lama ogola inuu noolaado aan la ogolayn madaxweyne mukhtaar robow codkiisa banaanku keenay wuxuu leeyahay meelaha qaar markaad dhageysatid waad yaabaysaa wuxuu leeyahay dalkan af buu u xiran yahay yiri dalka kan af buu u xiran yahay af haddaan hadda dhaqaaqno oo aan macnaheedu kameradeena aan wadano diisoor ilaahay hadda wax naga hor imaanayo ma lahan uu yiri dalka af buu u xiran yahay annagoo soconno kameradeena aan wadano wax naga hor imaanayo ma lahan uu ku leeyahay taa waxaa ka fahmaysaa marka السيد مختار روبو علي أبو منصور شباب كله أو شرعيسن شباب كي ما أنت فلوية قرح يدا وفرماجو يتلي حجاروا وتليها بليسك فدرال كصومالية أو بوهود لكسو جيدا أو أن أردلن مجالة مقدشو أمني جيدا سجعنت اللوجلية نكاسوية نكا ماركيس أنكون نحين ورهدو أمني سجايو ديجان كيسي هادو ونمان ديجان كيسي معني كشقيسن كريم magaca federaalka isagoo wata ayaa wuxuu doonayaa inuu adigu maamulo dhibaatada haysata muqdisho iyo dadka Mayland waa dhibaatadan waxay gooni ku tahay dhibkan wuxuu ku gooniyoobay dadka Mayland iyo dadka ma arkaysa muqdisho degan maxay ugu gooniyoobeen deegaanadooda dad aan u dhalanin oo gobollo kale ka yimaaday ayaa madax looga dhigaa tusaale gobolka Shabeellaha Hoose macnaheedu degmooyinka iyo macnaheedu guutooyinka degan dad aan u dhalanin gobolka Shabeellaha Hoose sida galmudug ka soo jeeda ayaa taliyaal looga dhigay beeraleydii ma u naxayaan waa maya magaalada muqdisho hadaa u noqotid waxa taliyaal ka ah u fiirso degmooyinka u fiirso war xataa nin Puntland ka soo jeeda macnii gudoomiye degmo ka ah magaalada muqdisho mid kamid ah ay maayigii deganaa oo iska lahaa muqdishadii ballaadnayd dadkii muqdisho u dhashay meel ku sheeg adiga marka su'aal war dhurwaa haduu xaakim noqdo ari maxaq buu helayaa هاي مايا جوابته يفضل داي وردرواه هدو حاكم نقضو أري محق بو هلايا ورما معني هدي او حق هلنا أريغا حق أصوبها يوام حي إن لقنوا معني الصومالي ويس عنطي ورمحا فدرال لو دستي صومالي ده محا دولة فدرال محا لو قاطي سببت لو قاطي وحي تاي معني بنتلان يدو اسمها مشو قلمدوك يدو اسمها مشو معني إن هرشبه يدو اسمه مشو لحظة قبل مايلان إنه اسمه مولان مقدشة إنه يدو اسمه مشو كدب دولة الدحيل يسوي مادو هرت فدرال كمعني سو أساس لكن مقدشة لما كلا لهن كونفور لما كلا لهن قبل الله كانوا ولا كلا لي ويا وحان ربا حجار هذا كانوا جوجا حمر جوجا قوتوين كان شبه الله صبا ضد كسر جيدا مقالة مقدشة oo macnaheedu maanta boosaaso taliye ciidanka amniga sugaya ama garoowe ama gaalkacyo iyo burtinle bal ii sheeg ma haysa adiga ma haysa hade macnaheedu run in la maalaa fiican macnaheedu magaalada qofka u dhashay isla qofkaas amnigiisa sugaa adduunka federaalka sidaasi weeye sida tan ma ahan ee xajaar hadda uu sameeynayo adduunka waxa weeye tuulada ninka u dhashay isaga balays ka noqday isaga amniga suga marka isku soo wada duub walaalayaal madaxweyne mukhtaar robow muxuu yiri waa ku noqonaynaa madaxweyne jidka uu xiray waa kana
dadkii ku farxiidan isin layna ma ee meel isin roogdan jaaliyado runtii walahay oo weeray Mareykanka Arabo Australia Afrikada meel badan oo kumid ah iyo markaa la yoo weeray ilaahay oo busunay doona arrin inuu sunay hagaajiya lam fadaw ya ciidanka weelay wama ya'lamu junud rabbika illa huwa dad ciidan ku filaay idad lunku filaay ilaahay ciidankaanu ka weelay إن شاء الله تعالى قولي سلاسل إن شاء الله ما يرجعنا إني إسقرب شرونا ما يشكل لها إن أنتها توابون بنا أنتها توابون بنا يتكون دين صورقاتنا كاميرو يكون من الرهان سيدا لا يملا هنور سرور ولا وذنك أفكر أوكي والله بكاسة مهمة ماذا حويني محاتري وذنك يوحي رياي السجن نو شيء جاي نين كانوا واحدك مهم وي وافري صوماليا نينكا ما arkaysa macnaheedu waxaan oo dhan soo afjari kara waa madaxweyne Mukhtaar Soomaalidu waxa la rabaa inay aragto war maanta imisa ka dhimatay Soomaaliye shalay October imisa ka dhimatay war ninka macnaheedu soo afjari kara ninka soo afjari kara oo maanta la idin ka xiray waa ninkan war ninkan kama xirna may kaliya wallahi marka runta loo noqdo ninkan wuxuu ka xiray yahay Soomaali oo dhan ayuu ka xiray maxaa yeelay nabadda Soomaaliya fureeda waa qashinkan oo dhan ninka godadkooda iyo sancadooda yaqaana weey wallahi billahi tallahi haduu soo baxo oo 200 askari kaliya uu ka haysto wallahi billahi tallahi way ka soo qaxayaan koonfurta Soomaaliya oo dhan hubaalwa isagoo bakool ku jira America ay la dirirsan tahay dawladda federaalka ay la dirirsan tahay dawladda maamulka koonfureed ee Shariif Xasan madaxweynaha ay la dirirsan tahay ninka isagoo la kubaareeyay meel walba macni oo laga galiyay shabaab oo dhan awoodeeda ay isugu geysay ninka la soo afjari waay ninka Xasan Daayir Aways macallin Burhaan iyo ninka la yiraahdo afqaan habeenkii la dilay ninka hubaysnaa ee soo badbaadiyay Xasan Daayir Aways waa ninkan Soomaalida meesha ay ka noolaanayso inay fahamtaan loo baahay caadifad maaynimo kaliya ninkan uu ahliyay maay u dhashay kaliya inay fiirisamaan war ninkan waa nin adiga ku anfacaya waa ninkii shalay galgalata iyo ma arkayse dhulkan hogaamiye kooxeedyada sharwadayaashii ay xidheen waa ninkii furay waa nin ilaahay leadershipka macnaheedu heybad u siiyay waa ninkii ma arkayse candhameydlayaal intuu gawaadhi ka buuxshay iyagoo wada qaylay ugu daatay hogaamiye kooxeedyada dhulkii 30 sano 10 sano la furi waayay Muqdisho subaxii dambe macnaheedu la isaga socday waa BBC-da aad ka dhageysateen oo daawateen waxaan ula jeedaa caadifad qabiil ee maynimo ninkan maayo u dhashay marka laga yimaado waa ninkan kiiwa ninka dawladda federaalka shabaab ma arkayse adduunyada oo dhan ay isugu tagtay abol isagoo ku jira meel iska saaray waa shabaab ay ka qayliyeen ilaa ay haddana askartiisu dhammaan fartoogtayaal ay yihiin fartoogtayaal carradaasi ciidaasi ay ka badan yihiin inta la yaqaan macnaheedu intaan la aqoonaa ka badan dhar cad ah dal iyo dibad jooga waxaan leenahay Soomaalida hadday aqli leedahay war ka faa'iideystaan Mukhtaar Robo oo ka faa'iideystaan halyay Soomaaliyeed waa shalay Soomaaliya markay gumaysiga ku jirtay 13 qofood baa ma arkaysa Soomaaliya macnaheedu madax banaanida horseeday baa la maanta Mukhtaar Robo war shabaab baa idin dilaya Soomaal ninka Soomaaliya ay ku badbaadaysaan waa Mukhtaar Robo nimankan haystaan waxay u haystaan in ay ku shaqaystaan bay doonayaan dhiigga bani aadamka sida maanta aad aragteen farmaajo dhiiggii uu siyaasadeeyay oo doorasho uu doonayo inuu ku baajiyo oo waliba taliyaha belayska uu soo adeegsaday oo dhayanadaasi laga soo diray macnaheedu Muqdisho gudaheeda macnaheedu la soo dureeriyay meesha dadkan kala wareega lagu qarxiyo aad aragteen Xajaar isla markiina uu yiri ha sheegin tirada meel ka muhiimsanaan u wadnay soo ma jeedid marka waxaan leeyahay madaxweyne Mukhtaar Robo uu cadeeyay nimankan tabar ma lahan uu yiri eelayaashoodu yaqaana furayaashoodu yaqaana Soomaalidu waxaan sheegaynaa Mukhtaar Robo in ay macni ka faa'iideystaan khibradiisa ninkii nabadda Soomaaliya horjeedi lahaa insha Allah ta'ala guulay sadaasina insha Allah ma rajayana inay isgarab shuruna ma shakal laha in antaha toobuna banna yidkun diin soorqaadna كاميرو يكون من الرهان سيدا لا يملا هنور سرور ولا وذنك أفكر
maayga waa wada taqaanaan muxuu yidhi war haddaan dhaqaaqno af wixii cid fiiri taariikhda waxbay ku bartaa italy hadda ka hor nin baa xabsi ku jiray oo ciyaartooy ah meel kalean kaa tusa haddana soomaaliya talyaaniga iyadoo koob adduun la dheelaayo oo final la taagan yahay ciyaaryahan xabsi daa'im ku xukuman oo aan bannaanka la keenin oo kubaddana aad u yaqaana markii talyaani lasoo kuusay oo ciyaartu macnihii kambiyo hore inay dhammaatay baan u malaynaya kubaddana aad bay u jeceshahay talyaaniga reer yurub aad bay u jecel yihiin oo koobkii adduunyada laga qaadi rabay xiiso badanna uu leeyahay ninkii dembiilaha ahaa ninkaan dembi maolaha tusaalaan idiin soo qaadaya waa loo tegay shacabkii oo dhanaa kacay shacabkii oo dhan garoonka iyo talyaaniga waxay dhaheen nationkeenna qarankeenna waa in ciyaaryahankaasi garoonka la keenaa uu ka ciyaaraa bay dhaheen haddii kale koobkan waana laga qaadi haddaysan dhicin dowladda waan burburinaynaa shacbiyan ayaan godood u samaynaynaa sidaa markay dhacday dowladdii way ku qasbanaatay in ciyaartoo socota ninkaasi xabsiga loogu tago oo la yidhaahdo soo bax maantay taagan tahay maantay ku gol joogtaa xabsiga marka loogu tagay ciyaaryahankaasi shuruuduu la galay soo bax marka la yidhi bixi maayo yidhi anigu ma arkaysa xabsi baan ku jira xabsi daa'im baan ahay haddii aan dheelaayo shuruud haddaan dheelaayo waa in bilaa dembi aan ahay waa inaan waxba laygu haysanin haddaan dheelaayo waxba laguma haysto weliba haddaan badiyo inaan dembi lahayn uu yidhi okay waa la soo kaxeeyey garoonkiyaa la keenay kubaddiyaa bilaabatay italy iyadoo laga badin rabo ciyaarta gabagaba ay tahay goolkii uu dhaliyey ayaa talyaani koob uu ku guulaystay koobka adduunka markuu guulaystay waxay damceen inay u mahadnaqaan dowladda talyaaniga shacabkiisuu dhex galay marka muxuu yidhi lugtaydaan ku mahadinayaa yidhi lugtuusaa u taabtay tanaan ku mahadinayaa yidhi haddaanan guulaysan lahayn xabsigaan ku noqon lahaa sooman waxaan ula jeedaa shucuub gaalo u badan oo weliba nin dembiilo ah macnihii ciyaar in ay soo daayaan ooy macnihii qarankooda u badiyo ayay xadaaradooda tustay dadka soomaaliyeed dhiiggooda maalin iyo habeen qubanaya marka oo la baabi'inaayo oo macnihii yakaa lagu kala xidhay eelayaasha lagu kala xidhay luuqyada la kala gashaday macnihii SMS-ka lagu baadaayo oo macnihii gabdhahooda macnihii guur qasab iyo kufsi isugu jira macnihii naftaa ku jeclaatay akhi haddana naftaa ku nacday lagu baabi'inaayo war ma waxay garan la-yihiin madaxweyne mukhtaar robow in ay ma arkaysa macnihiis ay dhahaan ciyaartan isagay taagantay war ninkaasay taagan tahay maantay ogaanay macnihii tuugada tan ogaanay inay dhahaan miyay garan la-yihiin kubaddan meesha ay marayso macnihii waxay taagan tahay tiiba talyaani ciyaaryahankii hadda ka hor talyaani markii koobka la qaadaayay bay joogtaa shacabka soomaaliyeed marka caadifad maynacayb iyo cunsuriyad xagga dhiga maxay kuu taraysaa cunsuriyad waaba dhammaanaysaay maanta 200 iyo samtiya kaa dhimatay oo waxba aan galabsan beritoole lama oga ilaahay baa og amnigaaga saa dambe lama oga saakuun lama oga maalinba maalinta kasii dambaysana way kasii xumaanaysaa soo ma raynayso qaraxii oktoobar markuu dhacayay dhammaan dadko dhan waa la wada ashaatay qaraxan oo kalaana soo maraaya lama dhihin haddana kan markuu dhacay kan mid lamida nama soo marin baa laleeyahy haddana mid kale un baa la sugaaya haddaanan ma arkaysa xal la helin marka waxaan ula jeedaa oo aan leeyahay madaxweynuhu wuxuu yidhi war dalkan af buu u xiraya siduu u hadlaayaa ka dhab ah wuu yaqaanaa de sida loola dagaaluu garanaya madaxweyne فراي دad lunku firaare bilah ciidankaanu ku weeli guuleysada insha Allah ta'ala guuleysada sene insha Allah may rajeeyane iniga si garab suruna may shakan lahayn inta toobuna banna yidkun diin soo qaadna kaamirooyinkuna rahan seedan leeyma lahaan hor suru oo wadanka afka qodobkaasi waan isla fahmnay sidoo kale dowladda in ay qaraxyada ka dambayso oo ummadda ay dhacdo ay isbaaraysato ay kufsato ay baaddo ay disho madaxweyne mukhtaar robo hore uga hadlay sababta macnihii ninkan loo afduubay waa taas
madaxweyne noo sheeg maxaa lagu hayaa dadka qabiil ah iyo ay koox kale dareesta dawladda wadata sideeda sajidta waarid aw jidadka noo furo ee noo hire insha Allah ta'ala wala tawartaan oo ku qabano walwiin la qordo ku qabana amba qulna unuga ku qabadana ka dhimana amba guul baad jeer isku wareysana insha Allah ta'ala jidadka noo furo ee noo hire insha Allah ta'ala inuu noo furo doono oo ilaahay baana ونك دلالة جد كاسوي الموضوع جون بقصة أو قلب يقول بقصة اللي شيرعو إنه إن شاء الله تعالى ولتبرتعنا الجيش لدوم جد كاسوي ستقول يوم مركا مهري سديد قالوا بكير بكل أسبوع دوم إن شاء الله تعالى واحد كروات ما يبقى خوارج أو خوارج هي كوح كيون قبيل iyo ay koox kale dareesta dawladda wadata sideeda sajidta hiriye insha Allah sideed iyo dhir ku diyaas ku xado way ba insha Allah ta'ala intibaaqada jamaa may kale ay dawladda yana inay ay dareesta kiishe dadkii ka dhibaatay noqo إلهي يفوض علوم الذي يليك العوضة دولتنا ما يلفظي دريس جيان إليه دقن قتلت وضغن كذبنا يقول ليش يلي لنكو يعبر توسيد جيلي قبل هل ينتلي إذا قبل والكلمة مقرسة رد يرمو القوصي ورمي جدا ميدقائي هل ينتهي بلاي عيدين عن قبل وانا بمضور يجيب يجوغ بيرتي همبطة قربضي تعفن هاي يهدوني دولتس بقى قصيدة قرب يدكن يا هوالا قرب يدكن سيدنا قرب يا هوالا ترى وانا قبل اسمع كجراه وباي قبل من تلذا هو إلي أمان كوالو كوالو لا بلا دولة الدرس كنا متنطط هيا مدري meeshaas waxaan ka fahmnay madaxweyne Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur macnii dhibaatada dawladda ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed meeshaas uu naga tusay okay ninkan hadda uu xiran yahay dunida waxay dhaadaan la daayo adduunyada waxay u garatay iska badhaaf farmaajo adduunyada waxay u garatay in loo dhiibo East and Central African Command anti-terrorism in loo dhiibo macnii bariga iyo bartamaha Afrika madaxa guud ee la dagaalanka argagixisada in loo magacaabo ayay dunida miiska ay soo saartay budgetkiisii la siiyo geeska Afrika uu ka cirib tiro nimankan ma arkaysa argagixisada ah yaa ku dhagay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisii Faad Yaasiin uu ku jiro oo qadar maxay ugu dhageen waxay ugu dhageen hadda argagixisadii la soo afjaro say kuraasta u saarnaanayaan tuubadii baa go'aysa dhiigga hooyadan miskiinta ah aabahan miskiinka ah xamaaliga ah muruq maalatada ah oo ma arkaysa gabadhan iskoolayda ah oo iskuulka dhiganaysa oo macnii noloshu ay la dhacayaan shacabkan in ma arkaysa dushooda iyo dhiigooda kuraasta lagu fadhiyo lagu ganacsado oo la laayo qorsho waasaas laakiin ninkan haddii loo dhiibo madaxa guud ee la dagaalanka argagixisada bartamaha iyo bariga Afrika maba u daahayaba 6 bilood la ii qabto yiri 6 months madaxweyne Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur wuxuu yiri 6 bilood bas la ii qabto 6 bilood bas ana ka soo afjaray nimankan geeska Afrika wuna kari kara laakiin farmaajo muxuu miiska soo saaray iyo Faad Yaasiin waxay yiraahdeen ma arkaysa annaga u baahan oo noo shaqeynaya ma waxaad moodaa in ay run ka tahay maya inay cuuriyaamiyeen oo ma arkaysa macnihii jaga qolof ay u dhiibaan markay jaga qolof ay u dhiibaan hadday rabaan ay shaqool ku dilaan shir imow intay dhaan sidii Siraaji oo kale ama in ma arkaysa macnihii taliye ku xigeenkiisa awoodda la siiyo isaga marka jagadaas isaga magacawnaado sidooda dadka ay u xasuuqan taa kan u gadin waay ceebayaan qorshoodu waasaas laakiin anagu ogaanay
soomaalina lama oga soomaaliyay marka su-aal aan isweydiino haddii qofka macnihii waxaan suntaan naga saari kara haddaan ka aamusno intee in la eg baan ooyi doonnaa intee in la eg baan isu tacsiyadayn doonnaa arrinkan waa arrin taabanaya qof kastoo soomaaliya inta dhulkan degan hooyadaabaa ku jiri karta maanta ma ogid walaashaabaa ku jiri karta walaashaybaa ku jiri karta walaalkaybaa ku jiri kara eedadayaa ku jiri karta eedadaa ku jiri karta ma garanaysid qaraxa meeshuu ka dhacayo ma garanaysid waalidkaaga ama walaalkaaga ama dadkaaga ama familkaagu macnihii meesha ay lugta dhigayaan adigu macnihii kaalama tashanayaan mana ogaan kartid mar walba marka arrinkan waa arrin annagoo dhanna wada quseeya marka su-aalaan iswarsanna marka haddaynan anagu tashan soomaaliya haddaynan macnihii idinku aydan tashan intee in la eg ayaynu tacsi diri doonnaa dowladda farmaajo luuqad kale ma hayso qaraxyada intay fuliso ayay macnihii waxay meesha la soo fadhiisanayaan waanu ka xunnahay waanu baari doonnaa bes qarxii octoobar dadka qarxiya waa la ogyahay waanu baari doonnaa meel fog markay gashay barakaad waa laga haray ma la soo qabqabtay wiil caseeyo oo maya oo miskiina inta lasoo qabtaa dadka macnihii cuqubada ay ka galeen ay toogteen hay ha aan ku noqono marka waan baari doonnaa macnihii waan tacsiyadayn doonnaa soomaaliyay ma idin anfacaysaa marka mise si dhaba inaad macnihii dhibaatadan aad isaga dulqaadaan ayaa idin anfacaysa wa firi injineer yiriisow oo yidhi gobolka banaadir waa in maqaamkiisi la dhisaa yidhi way dileen farmaajo iyo tiimkiisi intay dileen ay taalla u dhiseen war adiga nimanka maafiyasan abadal aabidiin maanan arkin war iyagaa ku dilaaya iyagaana taalla kuu dhisaaya war adiga waaba lagu dilay taalla maxay kuu sheegaysaa weliba kan taallada ay u dhisaayaan waa yiriisow oo kale shacabkan hadda haddii la dilay yaa taalla u dhisaaya yaa sheegaya yiriisow wayna dileen taallana way u dhiseen way dileen taallana hee way u dhiseen iyagaa ku dilaaya haddana iyagaa soo ooynaya nashuusho intay ku nabto ay nebiga kaaga horraysaa baa layidhi way ku nabaysaa nebigana way kaaga horraysaa naashuushada waa tabtaasi intay ku dilaan bay taalla ku dhisaayaan ooyintana iyagaa kaaga horreeya baroor diiqaan qabanayna ay kuleeyihin haddana mar kale dadkii shaqada ay ka habsaaminayaan awalba jidadku ay ka googooyeen dhallinyaradu waxay qabata male bajaajlayaasha ma shaqaysato 25 kun oo dhallinyaro ah oo bajaajlayaal ah bil kasta cashuura laga rabaa reer muqdisho ah oo weliba cashuurta farmaajo u dhacaysa reerihiisa lagu biilaayo ay ku naaxnaaxayaan macnihii gobollo kalaa lagu dhisaaya dibadda akaana lagu shubanaya reer muqdishona kan ugu roon dhafoorka xabad laga dhufanaya maalin kasta bajaajala la soo dilay baad arkaysa meel loo raaca male taliyaha belayska ka dambeeyaa lagu leeyahy nakruumaa ka dambaysay yaa wax ka qaban kara so uma jeedin dhallinyaradu waxay haysa male shaqo male jaamacadkii ka baxay kii dugsi sare ka baxay kii dugsi waxa la qabanaya male shaqooyinkiina ma arkaysa macnihii dad gobollo kale ka yimaaday aan xamar shaqo ku lahayn ayaa qabiil ahaan macnihii loo geliyey boosaska dowladda safaaradii waad aragtay shalaan ka sheekaynaynay marka dadka mayga waxaa loo baahan yahay in ay wax fahmaan iyo dadka muqdisho in ay wax fahmaan ayaa loo baahan yahay ma ahan in ma arkaysa lagugu mashquuliyo maay baa sidaasa ma ahan in lagugu mashquuliyo eelay bay war waxaan macnihii in lagu laayaa loogu talagalay shacabku wuu isdhex degan yahay wuu isdhalay wuu isla nool yahay qaraxa meeshuu ka dhaco war gurigan hadduu gubto kan kalena uu gubanaya marka laakiin nin gobol kale ka yimaaday ammaankaaga in loo dhiibo oo ku daafacaya caqli maaha nin 91dii aad isdisheen haddana macnihii oo cudad qaba amnigaada ha sugo oo xaafadaada amnigeeda ha ku sugo arrinkaasi anigu waxay la tahay arrin qallafsan inuu yahay arrin la qaadan kara maahan wax la ogolaan kara maahan arrinkaasi in laga koro ayaa loo baahan yahay marka isku soo wada duub barnaamijku waa aan ku dheeraanay waxaan jecelahay in ma arkayse aan kasii baxo ayaan jecelahay haddii allah awoodale uu ka raali noqdo nafsadaydii ma arkayse safar gaaban ayaan geli doonaa
walaal ugu dambeeyay dhowr mar soo wacay baan ma arkaysa soo qaban haddaan soo qaban karo laakiin annagu dabagalaan idinku maqannahay Soomaaliya iyo gadaaliyaan la iska xaman annagu dadka ma xamanno annaga siiba mayga gaar ahaan SMC iyo jugta culus gadaal iskama xamanno yeenan gadaal iska xaman runta loo noolaado reality loo noolaado qaraxaasi haddii farmaajo iyo taliyaha baleyska xijaar qof aan ahayn dabada uu la galo ya maalin dambe live soo ma fariisanayno waxaan idiin sheegayno dho benwa waana idiin sheeg aniga haddaan idiin sheegaynaa iyagaa ka dambeeyey macnaheed baarlamaanka in maantay lagu baajiyaa la rabay bes hadhowdiina marmarsiyo loo helo la yidhaahdo extension ku darsasho waayo amnigii baa faraha ka baxay doorasho suuragal ma ahan in la yidhaahdo that was what they need odayaasha ergadii wax soo dooratay inta badan waa la laayay kuwa la laayayna mayga u badan ilaa haddana waa la laynaya ergadii darad hadda erga macnii wax doorata haddii la yidhaahdo askar in dharka laga siibaayo oo xarun la isugu geynayo mooyaane erga ma arkaysa maantay wax dooranaysaa aanba la helaynin one man one vote iskaba dhaafi leesh farmaajiya dad u diray faadiyaasiiniyo kulli waa la soo laayay daraadna qodob muhiimaan idiin sheegnay qodobkaasi mar kale aan idinku celin doonaa walaalayaal tirakoob ciidamada ayaa la sameeyey waxaa la soo dhejiyey kaar ah ciidamada Soomaaliyeed baa la tirakoobayaa baa layidhi ciidamada Soomaaliyeed ha la tirakoobo tirakoobka sanadku dhawaad uu socday bilooyin uu socday guuto kasta waa la tirakoob taliye kasta iyo abaanduulo kasta mashquula laga dhigay yaa tirakoobaya wasaaradda gaashaandhigga xafiis tirakoob ay leedahay ma wasaaradda gaashaandhigga tirakoobaysa maya taliyaha asluubta xafiis tirakoob uu leeyahay ma asluubta tirakoobaysa maya bilayska wuxuu leeyahay tirakoob buu leeyahay xafiis tirakoob oo liiska galaalka ku jira askarta ma bilayska tirakoobaya xafiiskiisa maya yaa tirakoobaya leeyahay sirdoonka Soomaaliya ayaa tirakoobka gacanta loo gelin askari kasta darajadiisi magaciisi gobolku ka soo jeedo meeshuu ku dhashay hooyadiisi iyo macluumaadkiisi iyo taleefankiisi ilaa lacagta account lagu dhiibaa horta qodobkaasi ma la yaabteen oo ma la amakaagteen sirdoonka Soomaaliya ayaa liiska ciidamada oo dhan nin kasta haysanaya qodobkaasi isla garanay laakiin taasi in kasta oo qalad ay ahayd wasaaradda gaashaandhigga in tirakoobka uu hoos yimaado ay ahayd mid ka sii daran timaadadana tan ka sii daran oo yaab kale waxay tahay waa meeshay u socdeen mar kale aan ku celina Soomaaliya iyo baraaruga tan kale ay u sii socdeen taas way ku gambanayeen waxay soo dhajiyeen shaqaalaha dawladda oo dhan wasaarad kasta inta ka shaqaysa iyagana waxa la yiri waa la tirakoobaya yaa tirakoobaya tirakoobka yaa gacanta loo gelinaya faadiyaasiin nisa weligiin ma aragteen sirdoon dal uu leeyahay ayaa tirakoobaya shaqaalaha wasaarad kasta ee dawladda danta laga leeyahay ma taqaana ujeedada ka dambaysa waxay tahay dawladdan farmaajo uu hogaaminayo iyo muruga iyo macluul haddii ay dhacaan oo kursiga ay baneeyaan oo ku guul daraystaan inay soo noqdaan waxay doonayaan macluumaadkii shaqaalaha dawladda oo dhan iyo ciidamada inay gacanta ku hayaan si hadhow habeen ilaahay keena dadka u laayaan marka tusaale shaqaalaha dawladda wasaaradda arrimaha dibadda hadday ka shaqaynayso 4,000 oo qof wasaaradda qorshaynta hadday ka shaqaynayso 2,000 oo qof wasaaradda ma arkaysa maaliyadda hadday ka shaqaynayso tusaale 1,000 qof maxay sameynayaan waxay sameynayaan adiga waxaad ka shaqaysaa wasaaradda arrimaha gudaha muqdisho degan tahay waxay qorayaan magacaaga hebel 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 ama heblo 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 u dhashay ama u dhalatay qabiilkaasi deegaankaasi ka soo jeeda gurigeedu ku yaalo Shangaani Abdicasiis waa bari Boondheere ama ma arkaysa soo qabanaya garaar Boondheere ama ma arkaysa macnaheedu hodan ama ma arkaysa Dayniile saasay qorayaan saacadda shaqada aad soo galaysid timetable-kaaga schedule-kaaga ayay qorayaan saacadaas waa xafiiskaaga meesha ku yaalo wasaaraddu soo galaya
marka aad bawsaha qaadanaysid way qoranayaan marka gurigaaga aad tegaysid saacadda aad ku beeganta waa tegaysid ilaaladaada way og yihiin intaasi marka ay qortaan marka hadhow dowladdan hadday meesha ka baxdo ilaan dowlad haddii la bedelo shaqaalaha dowladda oo dhan wasaaradaha oo dhan lama bedelayo waad ogtihiin ciidamada soomaaliya oo dhan ha la bedelo farmaajo dhacay la dhihi maayo ilaan waxaa isbedelaya keliya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada iyo ma arkayse guddoomiyaha baarlamanka iyo xigeenadiisa baarlamankana baarlaman kalea bedelaya wasaaraduhu sidooday u shaqaynayaan shaqaalaha danta ay leeyihin marka maxay tahay hadhowdii madaxweynaha kale ee imaanaya iyaga ka guulaysta madaxda kale oo imaan doonta madaxweynaha kale iyo ra-iisul wasaaraha kale ayay doonayaan habeenba in macnihii shaqaalihii dowladda ay qaar laayaan shacab intuu warkiisi joogaa shaqaalihii dowladdiiba la laynaya dowladdii meeshay horumar samayn lahayd waxay rabaan marka in ay media soo fariistaan farmaajo waad ogtahay shalay xasan sheekh markuu madaxweyne ahaa farmaajo 24/7 calson tv uu fadhiisan jiray annagu nala soo hadli jiray farmaajoan nin weyn aad u malaysaan annaga wuuna tuugtuugi jiray wuxuuna dhihi jiray waa kaan nuur ismaaciili annagu nala soo hadli jiray wuxuu dhihi jiray hal article oo dowladdan aan ku dhaliilayo keliya warbaahintiina koonfurtaay ii saarac maanta qodobkaasi macnihi iga qora sawirkayga nooca saara uuna dhihi jiray wallaahi bilaahi tallaahiya waad ogtihiin meelahaan u wareegi jiray ha marka isku soo wada duub hadhow marka macnihii shaqaalihii dowladda la laayo inay bartaas soo fadhiistaan bay rabaan haddana muruge iyo macluul farmaajo u weeya ay dhahaan waa kaa hadde shaqaaliyaa la laynaya dadku marka ay dhahaan war dowladdii farmaajaaba roonayd oo jidadka xidhxidhatay tanaaba kasii dartay oo shaqaalihii dowladdiiyaa habeen kasta la laynayaa oo dowladdii laga kala cararo marka madaxda cusub ay wax dhaqaajin waayaan cadowtinimo inay lugta qabtaan dowladda soo socota this is the reality nisa sababta macnihii liiska shaqaalaha dowladda u shaqaysa wasaaradaha o dhan loogu dhiibay xaqiiqadana sidaas weeye waxaan eegi doonaa ma arkayse walaal baana soo geli doona marka shacabka soomaaliyeed ha ku baraarugsanaadaano shaqaalaha ma la diiwaan geliyey mise lama diiwaan gelin ma loo yeeray daraad markii laga soo dhamaaday militariga ha maya yaan ugu beenin karaa garaar soo dhowow salaamullaahi calaykum mudane ustaadka salaamaha adigoo dhammaan daawadayaalka ee kiihirin ma salaamullaahi calaykum garaaro xoogo codkaaga kor u qaad ama whatsappkan kaa soo waca hadda safaylin dhegayte hadda okay waay afka u dhowayaas maasha allah ku soco dhammaantiinsa salaamay adigoo dadka ka daawadahaaya mudane weriye adigo dhammaan dhalinyarta iyo oo soomaalida ulmaado le gabro leesan daawadahayo salaamullaahi anoo ka wakiila ayagana way ku maqlaayaan muwaadin geesiya u dhashay Maryland Soomaaliyeed soo dhawow hore u gal aragtidaada halaaga dhacay marka koowaad may ummad Soomaaliyeed ku tacsiyay masiibadii geedka hiraabta ka dhigay magaalada Muqdisho dhalinyartii walbi on galabsana xaqdarada la ka dhamaay marka koowaad may lahaa martili jeel ay ku qabro jeel ay waasaan ka dhaka masiibadan dadka abaabuli maskalu lahayn ilaahay may rajaantay wadanka ku qabada waan hanuuni kasay amiin tan kale horta dowladdan si an kooyti dowladdan farmaajo runtii may ka mashquul leeyihiin walwaabaliyada la niindirsana allan qofka haddii shaqadiis us agmara wareersha la taogda nacam dowladda may ka mashquul leeyihiin maamul goboleeda iyo kanqaboy kansaar walwaabalani roona ka mashquul meeli ammaanka muqdisho bas ku sugan lahayti caasimada madaxa wadanka ku sugan lahayti bas may ka mashquul leeyihiin mar abdiwali gaas karoor mar inshaalla sharif karoor mar ahmed madoobe karoor meel waabalani intirsana ka mashquuli kastay aad iyo aad waana runtii intii sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud intii hamarti wala masiibadan farmaajo intii kooyta ku badanayti ma lahayn ogsan 14 October ogayti markii soo dooradii me garax oo afar boqol qof dhamadaas hal mar markii farmaajo kooy la aragay kastay 500 qof صح maalan kasta rukud dadkii la dhamaayahay marka aan mayba mada kale ma haska weerar oo in adeeradiis ah meel dhahan walay oo amniyaadkii shabaabkii iyo kulliba may buuha sardoonka wadankan dhiibi gacanta ka haayaan kasta allan in adeer shahay ogsan zakariya madaxtooyada aan fadhi shabaab uu ka tirsanaa amniyaadka shabaab uu ka tirsanaa haddana meel kale asirto sarti wadanka dhan la ka aamini ayaan darawa way go'een dadka muqdisho marka ummada Soomaaliyeed may lahaa may buuha
Burland kilawa antalade lankan lang may bosidis su qaraba ama jaray Mareykan kaas meel isku wareersan laakiin madax ku wali iyo system ku koy ba wara ka wareersan ilaata laakiin ma lankan dhibi ku sii hume war walaan saban nagadeen hal ku talado Soomaaliya ku talada masiibada maalan kasti masiibada meel kale mal ugu may ban leeyahay horta niyow heewiya in raxweenta lama dameer wayniyo masiibadan balcad baladweynaha ku bilaawdaas ilaa kasmaanya ka cagdama ee markaas ku dadin leeyahay qorshaha ku leeyahay horta dadkii heewiya in raxweentan waa faham way boosaasi ku dhihaya mak aragaasu okay jigjiig ku dhihay aragaasu ay sababta maalan kasi baladweynaha kudlinka dilo bay dhowr kudlinka doo kasmaanya kudlinka dilo muqdisho kudlinka dilo ma allan qorshe ku dambeey kastay صح Soomaalina maroo shirkada Soomaali maroo burburti ma ilaha qoladan heewiya in raxweento aqlaga daron oo loodu walba dhaana war ku talada ulankile inta la ku talada farmaajina khayr mas insheeno fahanday صح mid kalena sideedaba muqdisho koonfurta Soomaali may madax ku nagado kore lan reeyo maslan ma heewiya lan kaas ma lan kale talada khayr tali kor ma kastay صح marka ma ila qoladan heewiya in raxweento oo aqlaban lahayna loodu walba dhaana ma ila talada war Soomaali maroo shalbati may boo dadimo wana ka dugsun wana ko dareeman tiidaan ani kile laftiida ani la way kastay صح taliyaha Blaze-ka dhaynadan markay qaraxday tirada sheegin uu leeyahay waliba waa nin farmaajo ku beela xamarna guri uga ma yaal shaqo kuma leeyahay niyow horta may boo walaha marko la baro la mahadiyo intii mar ana dastuur ahaan dastuurka intii la ka daro way in qof qolada Mareykan ha ku jeeda in tan ka sanataas oo madaxan kana korna Soomaaliya sababtoo ah war siyaad balad dhulka madaxa la galay oo ummadas aansi iska dari yahatana ilaa hata tiitis ku qabsado waysana awlaadis aqoonta ilaa hata maanta macna oo lama ka korhayaan hata tan masiibadan kale masiib kale la nishaani miya aadiya marka golaha baarlamaanka iyo golaha baarlamaanka anti fadeeda dastuurka dara in qof Mareykan ee 40 sanataas oo dalka madaxa ku nagado korna si fiican markaan qarax dhiya halko mar lama markaas laakiin 477 ku digdaas inta soo macna qorshe ku dambeeyay way macna aleen haddana muqdisho agaar shalay ma gorto maamul gobolka dhaaf warshay maamul gobolka isdhaaf war walahi raabta ka dambeeyay ka dhamaad aragaaseen mid kale masaakiin caruur fiiri zakarina se dambiil la'aan ka nagadi hasan daahir weys iyo sheekh muxtar warse dambiil ka nagadi bal fiiri meel warne qolada heewiya in raxweyn inta baalin ay bal fiiri okay qolada oo maalankaas rukud liin heewi in raxweyn war may macnaha aqlisho inta jara shalay siyaad bari macnaha kaada siin waraabiyay yaga farmaaji kaada siin waraabiy doon marka may la qolada heewiya in raxweyn war Soomaali shartabti qoladan daarad may buhano butna ka dhigan yahaano Ethiopia haysata hano Kenya haysata Soomaali dam ku galna wala Soomaali fadnayaan qoladan way qoladan isku qabada heewi in raxweyn talada madaxna sameeyay dawladda sameeyay صح marka aan warkay gudadii meelan ku tabe wala ma inta nimadan aan hareys kulli laakiin heewi raxweyn may buu lama dameer oo may buu la adaabahayo waan iyo adaabkaas inay korsulin adaabkan ka socda dhamaana kaas ganacsigan ka socda aad baad u mahadsantahay ku mahadnaqaynaa Garaar Muxtaaro adii mudan insha Allah walaalkaasi waxa waa Garaar Muxtaar oo tiiraayaysan Garaar waa haliyey u dhashay jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland isla markaana ma arkayse macnihii xaqiiqda macnihii barta ay tahay ku dhuftay يعني dadkan koonfurta Soomaaliyeed ka soo jeeda maxaa macni daraasiin maxaa loo dilaa marwal may fahmaan laakiin ani dhibaatada hal meel aan ka arkaa dana iyadoo sidaas ay tahay oo reer Muqdisho iyo reer Galmudug sidaan iyagana loo xasuuqaayo sida annagana loo xasuuqaayo oo kale si siyaasadaysan loo baabiinayo hadhow haddii ma arkayse mayga iyo reer Galmudug kursi ay timaado aan wax wada qabsano mayga way ka soo jeesanayaan reer farmaajo ka baayaan hadana cilada taagan way moogta ilaa iyo 91 wasaas macni dadka isku deegaanka yihiin oo jaarka yihiin ee wax wada qaata hadana macni mayga hadii uu damco madaxweyne inuu isu soo taago way ku joogsanayaan ayaa dhaweyd Shariif Xasan Sheekh Aadan Sheekh Shariif ay ahayd Sheekh Shariif Xasan ay soo taagay jawaari soo kaxeeyay gudoomiye baarlamaan oo ka dhigay awood qaybsigii may uu haray Shariif Xasan saasoo ku haray markii labaad hadana aan heshiino
waxaa lagu heshiiyey war maay inuu madaxweyne noqdo guddoomiye baarlamaan macnihii qolyahan kale ay qaataan reer farmaajo iyo ra-iisul wasaarena uu qaato macnihii reer galmudug iyo xasan sheikh iyo heshiiskaasi marka la galay doorashadii oo socota cabdirashiid xidig guddoomiyihii baarlamanka doorashada lasoo hormariyey cabdirashiid xidigaa yimaaday oo saami ahaan u qaadan lahaa beeshoo dhan way diiday cabdirashiid xidig ma geli karo iyagoo leh baa shariif xasan uu keenay 93 cod ayuu helay way ka reebteen reer galmudug iyo reer xasan sheekh maxamuud iyo way ka reebteen codkoogu ma siinin waxay ugu shubeen jawaari qof kaloo maaya si mayga ay ugu reebaan guddoomiye baarlamaan siirkalkan jaa heshiiskii ay buriyeen heshiiska hadday buriyeen shariif xasan iyo farmaajo oo aan isjeclayn oo dunida isugu necab aad ogtahay kambala wixii ka dhacay 6 bilood ra'iisul wasaare waa awgeed xanaaquu ka qaaday marka shariif xasan 77 xildhibaan ee baydhabo laga soo doortay isagaa hogaaminaya ugu shubuu yiri farmaajo loogu shubuu yiri sidii uu farmaajo ku soo baxay horta marka waxaan ula jeedaa haddii macnihii hadda way wada dhibayiin dadka mayga ah iyo dadkan ma arkaysa hadda macnihii reer galmudugga koonfurta u badan waana daris dhibaatada jirtaa waxay tahay haddii macnihii may uu dhaho waxbaan qabsanaynaa iyagoo gobolkan shabeellada hoose yuusan idinka ka farabaxsan leh daraaddeed waxay la safanayaan reer farmaajo iyo reerahan kale oo macnihii maxaaga ay isla yihiin laakiin abaal aan u haynin oo 100 iyo 500 u dilaan soo ma jeedid banaanka markay joogaan la dhahay kuwana waa gudhu kuwana waa futa madoobe labaduba saasay u yihiin agtooda morgan oo aad ogtahay oo kismaayo tii uu dhigay la og yahay ayaa maanta la taliya wuxuu u yahay farmaajo isma mooga dadkan laakiin yaa u sheegaya hadde albaqrullaahideen ayaa u sheegaya dadkeena walaalaha ayaa waxaas u sheegaya kaama akhrisanayaan adigu waxay leeyihiin eelahay baa tahay bogta Somaliland waa lagu diraa mararka qaar waxaa lahaa Somaliland gooni goosad ha u ogolaanina naa hal mar lafaa loo tuuraa yaana dan kale reer farmaajiyo oo cuqdad qaba ah waxay dhaayaan Somaliland Soomaaliya ka mid tahay ma goosan karto iyagana way ku yaacayaan war yaa lagu dirin Somaliland walaalahaaga waa hadday goosato Djibouti oo 800 oo kunba way goosatay waana walaalahaaga wax problem ma leh hadhowdii way ku soo gurmanaysaa marka dhibaatada jirtaa waxa weeye dadkeena aan fahamsanayn siyaasadda dhabta ah garaar hadda wuxuu dardaarmay haliyeygaasi Maryland u dhashay wuxuu yiri labadan beelood ee koonfurta degan ee u badan war macnaha aqli ha yeeshaan tashadaan maalin kasta 500 loo dilay waa sax laakiin see u tashanaysa adiga sideed u tashanaysa haddii mayga macnaha uu soo dhaqaaqi maago oo nimankan macnaha u gurman maago reer galmudug macnaha may meel uu ku xoogan yahay reer galmudug hortooda laguma dilo way difaacaan mayga way difaacayaan way xigsadaan Soomaan laakiin iyagu sidaa uma qabaan jaanis hadday ku helaan reer galmudugga mayga way leynayaan 19 ay ku dileen gaalkacay ayaan dhawid waxba aan galabsan oo shiniilayaal oo qayaana ganacsata soo ma jeedid marka seed wax ula qabsanaysaa marka warka halkaas uu ku dhayahay safar salaaman leeyahay ma arkaysa insha Allah taala barnaamijkan halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waxaan mar kale daari doonaa maxamed cabdullaahi farmaajo ina adeerkii oo taliyaha balayska federaalka oo ka dhigay xijaar general xijaar oo shalayna fakiyay ninka la yiraahdo jiniqaarkii xasuuqay saraakiisha mayga sharqoolay hubka qaranka gatay isku beesha ay yihiin qaraxan dhayanada ka soo galiyay muqdisho xoosh isbaarada soo marsiiyay meeshaan kumanaanka dad ay taagan yihiin ku qarxiyay si baarlamaanka maanta loo baajiyo waxaan eegi doonaa isagoo dhahaya bart qarax markuu dhacayba isagoo dhahaya Umar Finish ku dhahaya ha sheegin tirada dadkeena la laayay in la qariyo waa ujeedadeeda marka nin qorax kugu qalayna har شيء
سقاشن ما جارو فعلي ترى شيء ما marka Umar Finish ma waxaad leedahay waa gudoomiye gobol Banaadir oo madax banaan oo gobolkiisa ayisi iyo dadkiisa u talinay maad ii sheegaysaa aniga maya حجار با امرايه oo macni farmaajo macni ay ku beela ha sheegin u leeyahay tira sheegin hadaa sheegtid yaa weyn lag waay marka ha sheegin okay okay mar saddexaad okay tiraha sheegin haddaba intaasaan ku kala tagi doonaa laakiin hadal raagay baa wuxuu yiri gurgurshaaga awrkuba waxa ka gabya wiil yare soo tanguuyadeeni inaka u gaarnool sharaf xumo walaalkeed gogol xaaraana ugu bahla guuraysay warmaayo koofuro saudigan gidaarada go'laanta jiifsaday doqon lama goboodsado loomana gargaaree war gacantaada ku cilbeel gacantaada ku cilbeel baan ku leenahay tiraha sheegin baa meesha taalo gafanka iyo goobahan iyo gabadhan gurguurta guuguulaha si garoonka beenta ka gowgowle guuguulahan garoonka muqdisho ka gowgowle farmaajo gafanka iyo goobaha iyo gabadha gurguurta gaarilaha iyo garuunlaha ee gaaraarka ku amaani war afar gaaraa joogta wax kale uguma geeraarin goongoon cidla ah bay wadaa gaardis badane gardarro iyo bele iyo intay guluf nagu geertay gantaalku markuu duulay oo shacbigii gees walba u gudbay kuwa galeenka inaga dhigtay ee sida webiga la galaayo guruubku waa magacyadayna ugu gumeeyaane Soomaaliya gugeeda yaroo looma gaabiyo gembiye oo gumaysiba ka weyn aafooyin geline gawaanada gafanahan degay iyo tuuga garwadeenka ah gorfayn maayo hadal san iyo mid gaadhisa la iska gaambiyo aadna waaban uga gaabsadaa geedigan jirine intii ila garanaysa iyo ra'yigan wixii ku go'owba marqaatiba sida igu gali garacna yeelkiide ida ma leejanatul firdaws